loo soo gaabiyo madashan iyada iskale iyagaan mas-uulnahay iyagaana soo agaasinay aan soo wada dhaweynayno madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. السلام عليكم. Yeah. Microphone go ahead, start with everything. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجيء عبد الرزاق حاج عطوش وعن ستوسة النور داور إنسان لو سمرهب عاصمة الدولة الجولية كجلمدو عاوة وحامرتنا أحمد العين حسن الشيخ محمود ونقل قيب جليا دود تدوينها ريد وسمرهب أنت فردلا أي سؤال كويدين يان سؤالها إيه موضوع وكسر سيهاي دجال كالشباب بقول جيرو oo dowlad goboleedkan galmudug ka socda hadda iyo dhulka shabaab marka laga qabto inta ay hadda joogaan waxa xiga ee dowladda qorshe ahaan ay dadkaasi iyo deegaanadaasi u hayso doodan waxa soo agaasimay qorshaheedana iska leh hay'adda cilmi baarista iyo wada hadallada ee galmudug oo GRD loo soo gaabiyo mudane madaxweyne noo soo dhawow marka laga soo tago inta qof ee nala fadhida madashan uu samareeb ee caawa aan ku sugannahay kumanaan kale oo Soomaali ah ayaa telefishinno kala duwan iyo baraha bulshada oo caalamka kala jooga nala socda farxad bay noo tahay waxaan jeclahay inaan ku bilaabo su'aal ah mudane madaxweyne habeenkii 12aad ayaad ku yeelaysaa uu samareeb hawsha aad u joogto dabcan horeyna waa la sheegay aadna waa loo hadalhayay dagaalka shabaabka lagu hayo ee galmudug ka socda u soo koob inta nala joogtay iyo inta daafaha caalamka ka daawanaysa. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عطاش وسلامنتهاي وأنا معتصنتهاي وعن سيدو كلا ربا إن أنا هل كان آدي أدوغ مهد عديو هي آد GRD هي آد محلي أو رير قلمدو كتالة فرصدان أيغانا إيسو أبابولين إيو فرصدها بدون يدادكو أبابولان رير قلمدو أيغانا إي علم بارستا إي ودان بوا وح كسو كردني دالكو أو معانو السمينيو marka waa mahadsanyihiin ayagana waan bogaadinaya intaa kadib waa mahadsantahay dagaalka maxaan ku yiraahdaa nimankan khawaarijta ah muddo soo socday maanta ma bilaabanin dadkuna marka qaarkood Facebook koobaad iyo Facebook labaad iyo waxba xataa lagu wareeraa
dagaalka annaga weli faceka koowaad aan ku jirnaa 4 dowlad goboleed ee shabaab ay ka talinayeen 2 ayaan gooni u qaadnay galmudug iyo hirshabeelle 2 kale ee koonfur galbeed iyo jubbaland waan u dhiban yihiin laakiin dagaalku wuu ka socdaa maaha labadan keliya inuu ka socdo dhanka kale ka soconin laakiin nimankan experienceigeen iyo khibradeen aan u leenahay waagii horon anigu madaxweynaha ahay ee degmooyin badan oo dalka ku yaallo maanta xor aan ka xoreynay sidii la rabay hawshu ma ayan noqon leanna degmooyinkii isku wareejiyeen cunaqabateyn ay ku qabteen dadkii waxaas markaan fasiray waxaan ku tilmaamaa jasiirad degmo kasta waxay noqotay oon xoreynay jasiirad ku dhex taalla badweyn shabaab ah marka inaan markaan go-aankeenu wuxuu yahay dhinaca kale aan u qaadno oo aan iyadana mithaal uga dhigayo xaaqin haddaad qaadato oo aad qol xaaqin tagto dhinacaad ka martaa dhinaca kale aad uga baxdaa marka degaan la dhaafay oo shabaab weli uu kasii talinayo dalka inuu ka jiro ma rabno waana sababta aan markaana aan door u siinay bulshada degan degaanadii shabaab laga xoreeyo dhan maanta geedgeed askari soomaaliyeed uma taagna bulshadii iska xoreysay ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed kaashatay ayaa ilaashata haatan dhulka oo shabaab ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ma taagna meel walba ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dalka way xoreynayaan markay xoreeyaana degaanadooda dadka iska lahaa ilaashanayo ilaa haddana sidaasay ku socotaa oo kumanaanka kilomitir iyo boqolaalka maxaan ku ihahday degaan ama degmahada ama tuulaha ah ee shabaabka laga xoreeyey dadkii lahaa oo deganaa ayaa ilaashada oo jooga marka taas waa qodobka labaad waxaan rabaa xuduudda faceka koowaad iyo faceka labaad dagaalku wuxuu ahay webiga shabeelle wixii bari ka jira wixii galbeed ka jira dabcan webiga shabeelle ma maro galmudug laakiin dee leynkaasay ayadana ay la socotay hirshabeello maraa hirshabeelle degmooyinkooda inta badan webiga barigiisay jiraan laakiin dhul hirshabeelle ka tirsan oo waxaa jira galbeedka maxaan ku ihahdaa webiga shabeelle jira oo asigana dagaalka urid aanuu ku socdo dadkiisuna hadda ay abaabul aad iyo aad u xoog badan oo runtii ku ammaanayn ay ku jiraan sidaas ayuu socdaa sidoo kale koonfur galbeed iyo jubbalandna dagaalku waa ka socdaa dowlad goboleedyada labadaas dowlad goboleed iyo ciidamadooda iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay jooga halkaaba way wadaan laakiin marba meel ayaan xoogga aan leenahay isugu geynaynaa hadda ayaa labadan dowlad goboleed xooggeena leenahay isugu geynay kan kalena waa faceka labaadkaan ku magacaabna xoogga aan leenahay isugu geynaynaa oo aan aad iyo aad u rajeynayna inuu intii hore ka dhib yaraan doono haddii aad yiraa waa mahadsantaha aad baad u mahadsan tahay intaas su-aalaha aanan u furin waxaan jeclahay su-aal aan rabo inaan daba dhigo hadalkii jawaabta ahaa madaxweyne in xabad shabaab lagu rido iyo dagaalka hadda galmudug ka socdo marka laga soo tago oo dhulkii la qabto sida lagu rajo wan yahay qorshaha xigay dowladda dadkaas u haysa maxay tahay waa mahadsan tahay waa run qorshahaas dowladdu wuu cad yahay dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo hay-adaha bulshada rayidka culamaa udiinka kulli waa laga wada shaqeeyo ahaa qorshahaasi meelo qaarkood ma aha dalka iyo degaanada oo dhan meelaha qaarkood shabaab ayaa fidno dadka dhex dhigay oo isku diray si ay dadku inta awoodooda u daciiftay ay u xukumaan taas dib u heshiisiin ayaa laga gelayaa maamullo ku meel gaara ah ayaa urid hadda laga sameeyey meelo badan inta dhiman oo hadda la xoreyn doonaan laga sameynayaa ilaa laga gaarayo maamuladii rasmiga ahayd oo sanadka dambe aan bartilmaameedsanay oo qof iyo cod ah intii laga gaaray hadda maamullo ku meel gaara oo odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka wixii ka jooga culamaa udiinka deegaanada degan dadka in ay sii hayaan dowladduna ay sii gaarto oo ay barnaamijka stabilizationka xasilinta la yiraahdo ayaa intaas in ka mada darsanayo xasilintu waa dib u heshiisiin waa gargaar deg deg ah waa dib u furintii hay-adihii maxaan ku rahdaa u adeega bulshada tacliintii waxbarashadii biyihii iyo nidaamkii xukunka ee deegaankaas ka jiri lahaa barnaamijka la yiraahdo xasilinta ayaa asna hawshaas inta maxaa ku rahday socoto dhan soconaya ilaa dalka uu ka gaarayo stageka labaad oo ah horumarinta deegaanada aad baad u mahadsan tahay su-aalo badan baa baraha bulshada lagu soo gudbiyey oo aan haynaa laakiin waxaan jeclahay reer dhuusamareeb oo caawa marti loo yahay inaan ku bilaabo wiilasha microfoonada waxaan jeclahay inay u dhiibaan qofka waxaan jeclahay magaciisa inuu sheego hadduu noo raaciyo deegaanku ka yimid micno weynay noo samayn lahayd maadaama galmudug hadda marti loo yahay howsha galmudugna uu dagaal ka socdo ورحمة الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. magacayga waa Axmed Cabdullaahi Axmed Gaadiyo kuma cadheerahay
كان الدجال كانوا يقول الشباب بسم الله مقعي وأحمد قال الديد reer dhuusamareebeed ah madaxweyne sharaf ayay noo tahay in halkan joogtid dhammaanteen haddaan nahay reer dhuusamareebeed iyo dhallinyaradeedaba waa aragtay sida quruxda badan ee dhammaan kuu garab taagannahay sidaas ayaanu kuu garab taagnaan doonaa nagamana ahaan si oo istustusa ee waxay naga tahay si dhab ah in khawaarijta la dagaalan reer dhuusamareebeed caqiida ayay ka tahay marka midaas ka gudbo mudane madaxweyne khawaarijtu waxay wax badan isku dayaan inay dadka Soomaaliyeed ee wada dhashay isku diraan falal ay ayaga ka shaqeeyaan ayaa dhiig u daataa ma dhici kartaa oo dawladdii Soomaaliyeed ee adiga ugu sarreysay ma ka suurta gashaa inta lagu jiro dagaalka khawaarijta in amar cad laga soo saaro qofkii qof aana qabiil u dilo waliba deegaanada uu howlgal ka socdo inuusan noqon doonin laguna xallin doonin xeerjajabkii lagu xallin doonin ee ciidanku dawladdu ay tilaabo sharci ay ka qaadi doonaan qofkaas ay soo qaban doonaan tiirkana la keeni doono muddadaas ma laga xakameyn karaa aaday canaab noogu tahay culaysay noogu tahay madaxweyne waxa kaleeto soo labay arrintaas oo rabaa inaan ku weydiiyo qof aysan al-shabaab aysan dhibaateyn aysan dilin oo Soomaaliyeed ma jiro siyaasiyiin dawladda ka tirsanaa waxay mar walba soo celceliyaan inay dhahaan deegaan hebel dadkan kama qayb geli karaan dagaalkooda arayadana midaas go'aan cad ma laga qaadan karaa sababtoo ah aniga shabaabka xanuunka ii geystay hadduu waddan ka baxa xataa in uga hari kara ilama ah ma ahan markaasoo waddan Soomaaliyeed haysto anoo qof Soomaaliyeed ah ma jiri karto sabab lagu yiraahdo liigu cuqdaday ma tii deegaankaas mana ka soo dagaali kartid deegaankaas marka aad u mahadsantahay labada su'aalada qaba waa samaaxsan tahay laba arrimood oo xaqiiqo ah oo jirta ayaad ka hadashay midda hore waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego farsamooyinka shabaabka ay isticmaalaan dadka orda is soo dili ma yiraahdaan laakiin asbaabta isku dili lahaayeen ay ka shaqeeyaan qabaa'ilka Soomaaliyeed dabeecadooda waxaa ka mid ah xuduuday kala leeyihiin dhulay kala leeyihiin deegaanay kala leeyihiin deegaanadaasi waa ku wada nool yihiin waa lagu wada dhaqmaa laakiin xeerar lagula dhaqmo oo loogu wada nool yahay ayay leeyihiin daaqsin hadday tahay cabitaan hadday tahay colaad mugay dhinac kale ka dhacdo dhinaca loo soo qaxaya wax walba xeeraray u leeyihiin waxaan xeerarkaas ahayn ayay dadka ku dhiirigeliyaan weliba dee kuwa ayaga la shaqeeyo ujeedadaas lahoo canaasirta oo lacag yaroo macno leh oo ay ka mid tahay ogaan la-aan bax bartamaha reer hebel meel hebel tag maxaan ku yidhaahdaa barkad ka qodo ama ceel ka qodo dadka Soomaalidana barkada iyo ceelka waa taqaanaan waxay u yaqaanaan xuduudii qabiilka oo lasii fidinayo ayay u yaqaanaan waxyaabaha colaadda ka timaada ka mid ah waxaa ka mid ah ayadan waxbaba jirin bal wiil yar inta lacag lasoo siiyo inuu meel inta yimaado qof muhiim oo reer kala inuu dilo reerkii kalena waataan mar walba dhaho war qofkii qof dila waa dilaa ee reer hebel ma ah marka dadkeenna baseylkooda iyo fahamkooda meel hoose weli ka jooga arrintaas laakiin waa run waa ka hadalnay ayadoo dagaalka lagu sii jeedo gadaasheenna in dhulkii hadda wiilal badan ay ku soo dhinteen oo xoreyntoodii lagu soo dhammaaday inuu nin fitno ka kiciya ninkaasi waa shabaabka waxba kama duwana dhowaanahan qadiyada sidaas oo dhacayna dadkii sameeyey waa la baadi goobay waana la soo qabtay qaarkood xataa hadday ka gudbeen xuduudda xataa waa la soo qabtay sharciga ayaan la horgeyn ciidamadu amar uma qabaan inay toogtaan laakiin sharciga ayaa la horgeyn doonaa haddii aan la yiraa ciddii shabaab la macaamisho u tagto maxkamad doonato dhaqaalo u geyso oo dib u heshiisiin la gashana waaba dad waaweyn oo macnalahoo akhyaaroo laga garanayo weliba deegaankan galmudug qaar badan laga yaqaano ah ayaaba maanta u xiran oo xabsi maxkamad la geeyo oo la xukumay oo maxaan ku ihahdaa gaal shir ku jirto ayadana waa la garanaya waa la ogyahay qabiilaynta dagaalka shabaab in la qabiilaya sax maaha reer hebel dhulkeena ma imaan karaan iyo hebel dhulkaan reer hebel maaha wax socda ciidan dowladdu ay soo abaabushay oo ay u soo abaabushay inay shabaab la diriraan waaye waxayna la socdaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed uma socdaan dhul qabiil uma socdaan xuduud fogeyn uma socdaan reer hebel geerooda inay soo dhacaan ama reer hebel inay wax ka bi'iyaan waxaa
waxaa keliya ay cudurdaar u haystaan waa inay shabaab meesha ku arkaan. shabaab ninkii arka meeshuu jooga ha kula diriro iyo meeshuu ku gaaray intaba. marka arrimahaasi waa iska jirtaa dad badan inay xoogaa qabiilaynayaan, laakiin arrinta hadda caqabad ku noqonaysa ma aha oo dowladdu mowqifkeeda waa ka caddahay. shabaab qof kastoo ladbur carra ah qofkii ku tuuraya shabaab ama masaajidka inta ka istaago muxuu ahay shabaab muxuu ahay waa saas dhahayahay, waa mujaahid, waa shahiid. dowladda soomaaliyeedna garab iyo gaashaan ayay ugu tahay sidaas inuu yeelo. qofkii sidaas inuu qofkaasi yeelo diidana waa dowladda soomaaliyeed inay ka qabatay joog adiga tira ay diyaar u tahay. waa mahadsantihin. aad baa mahadsan tahay. waxaan jeclahay qofka labaad inuu dumar noqdo. gabadha iisii microfonka. adiga ma okay adiga khaldantay بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قف والباء وماشى فردية كرامة إلهي بن آدم كسيام السلامية. مركز حاجة مدن مدحوينه. نواكم هاتسنتهاي إن أقول سمرتي ما دد إن دجال كان قادد نوحنا قدون تا مدحوينه وقال لسه الصومالي هدي إلهي وجوش أسكم مكانية إن شاء الله. مدن مدحوينه هدي لقى جولة يستدجال كان سيد أنا أركي إن أنا في فعله هذا إن لقولوا يصدقون أن أدو جعلنا إلهي وكرجيننا محاك هاجا ومليال دولة أديكم مدحوينها كتاي دجال مركر لقالو أنا لقى مسوق هذا أجون يوحى لقى دحلان نافو سيد أنكور قمنا ويلاش الصومالية إذا ماذا يكسر نافو ب77 ماشي كودن بين درس الله مرتين وكور قبا محايد إنك قرشي سواكو تنلبات waxaa jira ciidamadu waxay leeyihiin xuquuq iyaga haday ama xanuun jira ku dhintaan ku naafoobaansi dadkeena laab la ka caqaboon ciidanka ka tirsanayn oo raba in cadawga Soomaaliya ragaadiyay in la cirib tira rabo iyaga maxaa idinkaga meeliyal ilaan ciidan sharciyeysan oo number lama ah su'aashku waa taas waay tan labaad talo waay waxaan soo jeedinayaa waxaa jira dadkeena oo Soomaaliyeed qof walba oo imaqlaaya in uu dulqaad u yeesho wixii madaxweynaha uu hadda ka dhawaajiyo su'aal ahaan loo weydiiyay ee ah mar walba in la fashiliyo waxaa jira dad waaweyn ama madax soo noqday ama madax ah ama nagu dhex jira oo aan raali ka ahayn talaabada ay uu ku dhiiraday madaxweynaha iyo dawladdiisa annagana aan ku taageersannahay waxayna diyaar u yihiin inay fashiliyaan gulufkaas colaadeed oo socda dawladiyo shicib dumariyo rag Soomaali way isku duubanto dagaalka ciribtirkooda loo dadaalayaa diidayo shabaab in la gumaado doonayo dibindaabyadeenna ku dadaalayo waa dalkaagii doqon yahow waa dalkaagii dabal yahow waa digniin isdaryeelo dadka soo raac. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan rabnaa inaan mid u sameyn haddaan ku bilaabo magacayga mudane maxamed diirsho ah reer cadaado mudane madaxweyne waa mahadsan tahay in halganka iyo dagaalka aad ka bilowdo gurigaaga taas waa ku mahadsan tahay teeda kale maadaama halganka iyo dagaalka uu maanta uu ka socdo gobolada dhexe oo aan ognahay gobolada dhexe hubka iyo qoyska inuu yahay muhiim hubka oo ay ka jecel yihiin qoyska hubka mudane madaxweyne maanta waxaa dagaalka ku jiro reero tiro badan hub tiro badan technico iyo ciidamo oo aad iyo aad u tiro badan birito marka oo la xoreeyo deegaanada hubkaas iyo qabaa'ilkaas maxaa kaaga qorshe ah waana mahadsan tahay soo dhawaaw mar kale iyo mar kale dowladda tabarteeda iyo taagteeda maanta joogto waa la gar dowladda Soomaaliya maanta joogta tabarteeda iyo taagteeda waa la garanayaa
ودولة هذا عرضا أو هذا كوريسا أودي ذا دقالة أودي ذا محوها مجلس منا محوق بنا دك شهداء كل انتنا ما اللي هو نهدي اللي يراه كوا عريامينا محوها أيجان السيدو كله أغون تخاصة ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo ciidanka asluubta ciidamada xoog ciidamada qaranku waxay leeyihiin xarumo agooneed ay leeyihiin oo agoontooda lagu xereeyo oo lagu xanaaneeyo intii la awoodo marka taasi waa horta meel oo laakiin dadka waaweyn ee ayaguna askarta ciidanka ah ee dagaalamay ee ku curyaamayna ilaahay ciidankiis looma weel ma hadba dawladdu tabarteeda intay la tahay waa la xanaaneyn doonaa waana laga warqabayaa haddii aan la yiraahdo taas meeshaasaan uga baxayaa منى محمد ديرشة وما صنتهاي أرتد جورجيجا أرت سومالي هذا معه لكن ضدك إن قلبي إن هيش الله يقولوا على سكوايستا أيضا لسدير الدولار كتاعن لكن أنا الصومالي هذا جورجيجا ضدك الصومالي هذا دجان كيجا وناك يوم حنكر هذا توصلنا أيانا لو وضع جعل هذا مان أريتك وصابسن هبكا Soomaali weligeed hubay haysan jirtay marba nooc mar waran iyo toorey iyo falaar oo ahaa iyo mar qorgii dheeraayo lixla dheeraha ahaa iyo faragooy oo ahaa iyo mar hadda ka iyo daba minshaar iyo dashiiki iyo shilki iyo suu noqdayba waa haysataa hubka wax ma dilo dadaa wax dila hubka inta dhaqaaqo oo meel tago qof soo ma dilo waxaa wax dila waa qof sharciga u gafay qof mujtamaca ku dhex noolaa waayey qof markaa hub inaan maarayno gacanta dawladda lagu soo ururiyo waqtigay qaadanaysaa inta ka horeysana inaan dadka lagu waxyeelaynin qofkii hub wax ku yeela dadkana maxkamadaha militariga la geeyaa civil hadduu yahay xataa qofka qoray wax ku dilaa ama wax ku waxeeya waxaa loo aqoonsadaa inuu ciidan yahay ee looma aqoonsado qof civiliana inuu yahay sidaas daraaddeed dawladdu xakamaynta hubka magaalada muqdisho hadda ka bilawnay hubkii waaweynaa inaan magaalada lagu dhex wada karnaa la xeeriyey waana la dhigay maanta laguma dhex wado baabuur dhishikaaw saasoo ordaayo magaalada muqdisho dhex mara maanta ma jiro kuwa yaryarna qoryaha yaryarna mar dhawaa laga dhigi doonaa and then sidaas ayaa dalkoo dhanna moral u noqon doonta guriga dadka waxaan leenahay hadda hubka koow facebook wadada laga leexiyo dadka Soomaaliyeed indhahooda qoray lala duufayo inaanay arag dadka Soomaaliyeed indhahooda inaanay qaban suuq sidii galeydii maxaa waaye furan oo hubka iyo rasaastu ay sharaxayeen oo lagu gadayo dadka Soomaaliyeed inaanay arag dad kale oo qof kale oo Soomaali oo muwaadin oo qoray lagu handadayo ama dadka Soomaaliyeed inay ka gudbaan maankooda iyo maskaxdooda qofka qoraga haystaa inuu qofkaan qoraga haysan wax dheer yahay inay ka gudbaan laakiin ay arkaan qofka wax qoraga haystaa inuu qofka aan qoraga haysan oo ka hooseeyo laana qofka qoraga haysto jidka la taagan qof isku kalsoon ma inuu shaqaysto kuma kalsoona hadduu isbaaro meel u taalo amnigii iyo dawladnimadii kuma kalsoona hadduu aaminsan yahay inuu qorigiisa isku ilaalinayo marka amniga dalka dawladda ka mas'uula waxaanan isku bedeli doonaa dadka hubka ay haystaan iyo dawladda hadba dawladda sidii isu xoogaysto dadka amnigooda suganaya ee hantidooda ilaashanaya waa qoryahooda ku ilaashanaya way sii yaraan doonaan laana dawladda mas'uuliyadaas qaadi doonto si buuxda maadaama marka waqtiyadaas hadda wax ka dhidhiman yihiin oo tabartii dawladda ay yartahay weli meelaha iyo siyaabo qaarkood iyo dawladdu laakiin hub gacanta dawladdu waa inuu ku dambeeyaa oo gacanta shacabka uu ka baxaa aakhirka u dambaysa wadayna mari doontaa ayadana diyaaliira waa maasantii aad baad umaadsanta su-aalaha waxaan rabaa inaan qaybiyo waa idin imaanayaa waxaan rabaa su-aal baraha bulshada qaar badan baa noogu soo weydiiyey madaxweyne deegaanada hadda ay xabadda ku socoto ama cirha laga weeraro ama ciidanka infantryga Soomaalida waxaa la soo warinayaa shabaabka inay dadkii inay ka baxaan u diideen iyagoo garbaad ka dhiganaya sidee khasaaraha rayidka loo yareyn karaa horta dee dadku mar waayo horta meel la hor yimid dadku inta badan ma joogaan dadku waxay gabaadka uga dhigtaan waa duqeymaha waxay dadka gabaadka ka dhigtaan inta aruuriyaan ay meel isugu geeyaan qarxada warshadaha ay ku sameeyaan meelaha maxaan ku yiraahdaa ay dadkii tuulooyinka iyo xaafadaha iyo ay ka soo aruuriyeen ayay isugu keenaan si aan meeshaas aan loo duqeyn taasna markaa meesha la duqeynaya aragti iyo ogaala lagu duqeeyaa meel kasta lama duqeeyo meeshii la arko waa laga xeeladaystaa waa loo kaadinaya fursadda maalin yaa la helayaa meelo badan oo dadi aanu joogi karin ama aanay gey karinaa badan ilaa iyo hadda
duqeymaha dhacay oo muddo sanad iyo ka badan ah soo socday dadka siviilinka wax ku noqday dabcan dad waa ku noqonaan dagaal hadduu dhaco xabadda meeshaad u wada bas ku dhici maysee meelaadan u wadina way gaaraysaa marka dad soomaaliyeed oo shacab ah oo wax gaari waa jiraa laakiin aaday u yaryihiin marka loo fiiriyo annaga markaan 2014 dagaalka aan ku jirnay dad badanaa shacab ah wax ku gaareen khibradeenni annagoo ka faa'iidaysanayna marka hadda istaraatiijiyooyinka iyo maxaan ku rahday qaabka muxuu ahay weerarada cirka aad iyo aad ayaa loo hormariyey loogana dhigay kuwo ku kooban meel la hubo inuu cadow ku jiro aad baad u mahadsantaa reer dhuusamareeb waan rabaa inaan usoo noqdo isininka magacaaga iyo deegaankaad ka soo jeedo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مدحوينها أدبو مهدسينها إنو عاون هوري مادو شعب كان رير dhuusamareebeed وأنا مركي كوبات أن عاو مدحوينها هور إمادو marka aan su'aalahaygu inta badan waxay ku saabsan yihiin khawaarijta marka aan su'aashayda koobaad waxay tahay mudana madaxweyne waxaa jira dad khawaarijta gacan saar la lahaa ama madaxa ka soo noqday inta badanna gaar ahaan deegaanadan hadda aad joogto soo weeraray inta badan dowladdu isla markaana meelihii laga xidida siibi lahaa khawaarijta in maanta ay madax ka yihiin haddaba suurtagal ma tahay madaxweyne qof hadafkii uu qoray ku hirgeli waaye in maanta uu shaati dowla ku hirgeliyo suurtagal ma tahay midda labaad suurtagal ma tahay in waddanka laga cirib tiro khawaarijta waxaana waa fikri waa ognahay su-aasha kale waxay leedahay mudana madaxweyne waxaad u istaagtay dagaal ka dhan ah khawaarijta oo looga xoreynayo dalka iyadoo loogu tegay saldhigyadii ay lahaayeen iyo cunuqabatayn dhaqaale iyo warbaahin intaba la saara haddaba maxaa diidaya mudana madaxweyne in lagala dagaalamo dhanka caqiidada iyo fikirka qaldan iyadoo la suulinayo dhammaan ilaha ay ka kobacsan yihiin mabaadi'da wahabiisamka si dalkeenna u dego ouna u badbaado su-aasha kale aad baa u mahadsanta 3 su-aalood kugu filan sheekh waa mahadsanta madaxweyne haye magaciisiina waa iga fakaday walaalkii waa sheeqayni un waa mahadsan tahay waxaan rabaa dadka soomaaliyeed diinta islaamka waa ku midaysan yihiin waa waxa keliya oo aanay ku kala qaybsanayn waaye marka dhab loo yidhaahdo qofkaas xagga maraya waa soomaali haddii lagu yidhaahdo ama uu masiixi yahay ama buudista yahay kugu soo dhici mayso asalaamu calaykum aad warka uga bilaabay sidaas daraaddeed nimankan shabaaban intana darseen ayaa waxay ogaadeen meesha keliya oo nalaga geli kara inay diinta tahay qabiil hadday naga soo galaan qabiilaan kala noqonaynaa reer hebel warkooda kuma jirnaa la dhaha waa ogyihiin wax kaloon anaga hadda dharkeena ka jirana ma laha soomaali iyo soomaali qofaan ay nagama soo geli karaanoo dhammaanteena wada soomaali ah meesha keliya oo dadka soomaaliyeed ay ka soo geli kareen oo ay maxaanku idhaahdaye u istaagi kareen waxay ahayd diinta islaamka oo dadkaanay 100% ay muslimiin ku yihiin oo ay maxaanku idhahda sunniyiin ku yihiin oo maxaanku idhaahdaye caqiida madhabka shaaficiga ay ku wada haysteen hase yeeshee soomaali u gaar ma aha adduunyadoo dhan afkaar waa jirtaa soomaali u gaar maaha dal adduunyada ka mid ah oo hal yani dood oo ma fikir isku raacsan 100% ma laha madaahibtii aanba ku kala duwanahay madaahibtii marka lagu kala duwanaadana nafsadeeda waxyaabaa la soo baxay hase yeeshee duruufihii dalka uu soo maray ee muddada dheer ee dowladda dadka soomaaliyeed 100% waa muslim waxa ay ku midaysan yihiin diinta islaamka waxa ay ku midaysan yihiin dowlad soomaaliyeed dalkan waxa ka dhex jira dowlad soomaaliyeed ayaa la rabaa inay maamusho oo ay maarayso diinta maarayso qabiilka maarayso sida ay dhaqaalaha iyo amniga iyo wax kaloo dhanba ay u maaraynayso sidaas daraaddeed dowladdu
dowlad waxay u jirtaa ummaddan nooceenna ah oo halka ummad ah inay u ilaaliso waxa ay leeyihiin waxyaabaha dowladdu inay u ilaaliso ay ka mid tahay waxaa kamid diinta inay u ilaaliso oo aan banaanka laga soo faragelin oo qof walba fikir yar aanu dhexda uga darsan marka muddo dheer maadaama dowlad la-aan dalka u arkay dowlad xoogaa khafiiftay oo daciiftay oo dalka ka jireen nimankaan intay noo yimideen inay diintii naga soo galeen waxbay ku dhex dareen waxa ay ku dhex dareen ma aaminsanin wax dadka soomaaliyeed ay raalli ka yihiin ama leeyihiin ay yihiin waxaana buruuf u ah dadka soomaaliyeed maanta hebel waa sunni iyo hebel waa salafi iyo hebel waa akhwaan iyo hebel waa saas ayaa wadaadada dhexdooda yaa laysku sii kala saasaara laakiin qadiyadan argagixisada iyo xagjirnimadu inaanay intaba suufi iyo salafi iyo akhwaan iyo midna aanay meel ku lahayn waxaa daliil cad u ah 300 oo wadaad oo culimo soomaaliyeed oo la yaqaano oo dal iyo dibad laga yaqaano markii intay isku yimideen 5 maalmood ay wada hadlayeen oo wada hadalkooduna xataa oo telefishinka live-ka ahaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogta ay dhegaysanayso iskuma ayaan qabsanin waxa oo salafi iyo maxaa kula suufi iyo u dhaxeeya iskuma ayaan qabsan nimankaasaa laga hadlay nimankaas ayagoo wada dhan ayaa waxay isku raaceen waxa ay wadaan inaan diin ahayn diintana lug ku lahayn ayagoo wada safan oo suufiga ku jiro oo salafiga ku jiro oo akhwaankii ku jiro oo maxaan ku oraa kii kaloo maxaa ku jiro ay wada taagan yihiin ayay dadka soomaaliya soo hor istaageen markaasay u sheegeen in aanay shabaab waxa ay sheeganayaan waxba ka jirin diintana aanay lug ku lahayn acmaashooda iyo ficiladooda iyo oraahdooda midna sidaas daraaddeed halkaas xukunka waxaan ka qaadanaynaa marka wadaadda soomaaliyeed oo salafi iyo sunni iyo salafi iyo suufi iyo ikhwaan iyo kan waa koox isku haysta ma jiraan dowlad la-aanta ayaana keentay asalkeedii ma jiri jirin laanna dalkan wuxuu dowladdu waxay mas-uul ka tahay diinta inay ilaaliso manhajka islaamiga ee maxaan ku rahdahay ummaddaana ay leedahay ay ilaaliso iyo madhabkiisa oo kutub aanay dowladdu raalli ka ahayn oo aan u adeegaynin dantaas midnimada ah aanan dalka laga isticmaalin laga akrin laga dhaqangelinay ahayde laakiin dee muddo dheer 30 sana qof walba wuxuu rabo meeshaan inta kala soo dego oo mid xagga wax kusoo bartay la yimaado oo mid kale xagga wax kusoo bartay uu la yimaado oo mid xagga hay-ad ay samafal ah xoogaa yaroo lacag kusoo dhiib uu la yimaado waxaasaa dhacay waa ka gudbaynaa laakiin waxaan u baahannahay dadka soomaaliyeed iyo culimada soomaaliyeed intaba koow shardiga ugu weyn oo guusha aan ku gaarina waxay tahay inaan isu dul qaadano horta laakiin haddaan kalar gaduudan iyo kalar cagaaran iyo kalar madow iskala marino oo aan kana waa saas aan dhahno ma ihiyo ku dhahaa sideedaba waa rabaa mar hore inaan ku celiyaa rabaa kuma rabanay leedahay waryaa adigaas muxuu ahaaye wahaabista tahay kanaa tahay jawaabtu ka imaanaysa waxaa adiga suufiya tahay khuraafiya tahay akhwaana tahay xagga u socotaa jawaabtu ka imaanaysa taas waa intay ku dhammaataa marka qoryamaan isku qaadanayna misdilayna arrimahaas waa mamnuuc waxaan leedahay xikmad ku jirtaa iyo diin ku jiraahay ma jiro dadka in la takfiiriyo la gaaleeyo midaba loo yeelo diinta islaamka meelna kuma lahan waa la soo wada ogaaday sidaas daraaddeed waxaan walaalaha soomaaliyeed inaan yarayno inaan isu kala yeelno aan iswaanino aan isku caqli celino aan wax isu sheegno laakiin inaan isku kala kalarino ma aha wayna dhammaanay marxalad oo duruufaha adag soo galnay ka mid a waayo waa ka gudbaynaa annagoo caqiidada saxda muxuu ahay dhexdhexaadnimada ah madhabka shaaficiga waafaqsan annagoo ku midownay oo ku midaysan way imaanay maalmaheedii waa soo socdaan haddii aan yidhi aad iyo aad aan umahadsan tahay sheekhay waxaan umalayaa jawaabta iyadoo taagana weli lagu siiyey waa qanacsan tahay aad waa mahadsan tahay madaxweyne baraha bulshadaana laga daawanayaa telefishinna iyo baraha bulshada su-aal ka timid baraha bulshada gacal axmed wuxuu joogaa south sudan wuxuu ku yidhi madaxweyne reer ceelbuur baan ahay ceelbuur baa lagu socdaa marka hore waad noo sheegay goortaad ceelbuur qaban doonto marka labaad wuxuu leeyahay hadda ka hor adoo madaxweynead ceelbuur qabatay waana laga baxay mar dambe ma laga bixi doonaa gacal soma gacal waa mahadsan tahay waa run ceelbuur waa lagu sii socdaa hadda wuxuu waa dagaalkuna muxuu ahaay mitiro go-go-an oo laisu tiriya ma lahane caawaba inaan ceelbuur joogno annaga waa jecelnahay caawa inaan ceelbuur u hoyano oo berisuxi waagu noogu bariya ceelbuur ayadoo calankii dowladda soomaaliya ka taagan yahay calankii ummadda soomaaliya waa jecelnahay laakiin dee howlaa ka horeyso hawshaasna waa lagu jiraa dhinac walbaa looga sii socdaa waa muddo aan dheerayna waa la gaaraya haddii aan la yidhaha ceelbuur
iyo galhareeri iyo degaanka intiisa kaloo dhiman oo dhan ba haddii alla yidhaah haddii aan usoo noqdo midii hore waa run horena waa uga hadlay hadalkaygii horena way ku jirtay waxaa sanadkii hore markaan dagaalamaynay taarget noo ahaa degmooyinka degme hebel in la xoreeyo marka inta cadowgan la jiiro oo xoog loo sheegto oo la kala eriyo ayaa degmadii la tagaay waa midda hadda aan ka hadlaayay markaa dee meeshii ciidanku ay tagaan abadiye ma joogayaan tuulo kasta iyo degmo kastana ciidan xoogga dalka soomaaliyeed inuu taagnaado oo qoryaasu difaaca ma aha istaraatiijiyadii aan bedelnay fikirkii hore aan wax ka bedelnay khibraddii iyo waayo aragnimadii wixii hore aan ka dhaxalnay ayaan isticmaalnay hadda ceelbuur waxaan tegaynaa anagoo dhulka ka sokeeyo dhan saa inta waxaaqna nadiif uu yahay oo amaa gadaashiin lagu soo duulaa la qabsada aanay nagu jirin ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ceelbuur tagahay way ka soo tegi doonaan ma joogi doonaan weliba berigaas ciidamo amisona ceelbuur nala qabatay oo nala socotay oo nala dagaalamaysay oo na garab socotay beriga amison nama garab socoto nala dagaalama mayso waxa tagaaya waa wiil soomaaliyeed ama ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ha ahaado ama muxuu ahay ciidanka muxuu ahay mujtamaca oo ciidanka bulshada oo difaaca bulshada ha ahaadee yaa tegaayo kuwii reer ceelbuuraa difaaca bulshada ah waxa meesha tagaaya ka mid ah ayagaa joogaayo dowladduna muxuu ahay intay laga hubiyo inaanay khatar ku sugnaan ceelbuur ciidamadu way joogayaan maalintii ceelbuur agaankeeda inay khatar ku sugnaan la arko ciidan difaaco ceelbuur oo amni oo ku filan oo helo maalintaasay dowladda kasoo tegi doonta haddii alla yidhaah waa mahadsanta aad waa mahadsanta reer dhuusamareeb baan kusoo noqonaya waxaan rabaa dad badan baa telefishinada naga daawanayo gadaal nooga soo biiray doodan waxa ay ka dhacaysaa dhuusamareeb galmudug waxaa soo agaasimay oo qorshaheeda lahaa galmudug research center oon u mahad celinayna madaxweyne xasan sheekh maxamuud baa marti noo ah ku soco magacaaga iyo deegaanka ka joogto hal su-aal baan ku ogolahay 100 qof aa saf ku jirta magacaygu waa iftaax cali xaalane waxaan ka soo jeedaa leercalgaras oo rajeynaya dhawaan in la xoreeyo oo madaxweynuhu halkan uu fadhiyo madaxweyne horta aad mahadsan tahay sida priority ku siiyeysa xoreynta deegaanada bariga galgaduud waxaan rabaa inaan laba su-aalada kooban madaxweynaha weydiiyo kadib xoreynta kadib deegaanadaasi cadowga laga xoreynayo maxaa qorshe ahay dowladda uga degan ee dhanka mashaariicda ah iyadoo wada ognahay in mashaariicaha ay fuliyaan hay-adaha un-ka ee loo soo gaabiyo GPLG qorshaha aysan ugu jirin degmooyinka naytamoonka kadib maxaa qorshaha oo deegaanadaasi aad u haysaan iyadoo aan lahayn xarumo degmo ama xaasaligiyo iyo wax mashaariica aysan un-ka aysan ugu jirin su-aasha labaad oo ah waxaan ognahay in dadka deegaanka ee abaabule macawisleyda ay dagaalka qayb ka yihiin dagaalkaasi dad baa ku dhimanaya ku dhaawacmaya maxaa qorshaha uga aadan qofka ku dhinta caruurtii iyo ehladii ama qofka ku dhaawacma calana waa mahadsan tahay su-aasha labaad waxaa umalaynaa xildhibaan canab aa weydiisay waana ka jawaabay iyada haddaan midda hore aan u dhawaaqo ayadana hore waa u sheegay laakiin waa tan waa aaday muhiim u tahay in lagu celi way mudan tahay barnaamijka xasilinta barnaamij la yiraa ayaa jiro oo afka qalaad lagu yihahdo stabilization program dowladda soomaaliya iyo hay-ado badan oo caalamka iyo dowlado badan oo kaleo caalamka ayaa si wada jir ah barnaamijkaas uga shaqeynaya barnaamijkaasi muhiimadiisu waxay tahay in deegaanada la xoreeyo dhan meeshii dadka soomaaliya ay degan yihiin oo dad macquul oo nambara ay degan yihiin degmo xataa ayaanay ahaanin in adeeg bulsho oo deg dega lala gaaro mucaawano in lala gaaro hay-adda sodmo waa aragteen meeshii baabuur gaaro baabuur inay ku geyni weyso mucaawanadii meeshii kaloo baabuur gaarin diyaarad inay ku geynayso horta dadka intii suurtagal ah marba hadban waxaynu ku xiran tahay sida oo mucaawanada ay noogu taalo noo soo gaarteen in la gaarsiinayo markaa kadib haddana in markaa adeegii bulshada iskuol bar caafimaad maxaan ku raa ceelka biyaha maxaan ku irahday police station wixii haddana in laga shaqeynayo oo dadkii loo abaabulan yahay oo loo qasaya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka maxaan ku raa macawisleyda ah ku jira dagaalka waxaa in ka mida ama ka daba dhow oo kaloo ciidan ayaa socota oo markay meel xoreeyaanba inay shaqadaas laga sii qabto diyaar u ah dalku wadooyinkeenna way xun yihiin sistamkeenna gaadiidku waa dhib badan yahay aad uma sahlana in meel maxaan ku irahday kuu dhowo saacad lagu gaari lahaa haddii wadooyinka ay hagaagsan yihiin maalmo in lagu gaaro ama muxuu ahay saacado badan lagu gaaro daahyo xagga iyo xagga waa dhici karaan laakiin ciidan dhan oo hay-adaha dowladoo dhan iyo hay-ada caalami ah iyo dowlado saaxiibo ah
ay ku midaysan yihiin ayaa waxay u socdaan in ay degaankii la xoreeyaba tagaan oo ay baahi taraan barnaamijkaas xasilinta la yidhaha ujeedooyin kaloo waaweyn oo fogfogna waa leeyahay laakiin midda hadda ugu muhiimsan maanta joogto waxa waaye immediate intervention si deg deg ah in degaankii faragelin loogu sameeyo oo loo gaarsiiyo muxuu ahay magaciisi marka xalana waa intaas midda kale horaan uga hadlay waa oo dadka dhaawacmo oo dhinta waa dadka nagii waxaan xoog iyo xoolo leenahay kama hakran doona hadii la yidhaha aad baad u mahadsantahay su-aalaha waxaan rabaa inaan isku barxo waan idiin soo noqona reer dhuusamareeb kumanaan kalaa baraha bulshada su-aalo kusoo weydiinaysaa madaxweyne su-aashan waxaa qaba shamis say usoo qortay waa shamis maysan sheegin meesha kasoo qortay waxay leedahay madaxweyne dhowr jeer waxaad ku celcelisay in loo baahan yahay in cunuqabateynta hubka soomaaliya laga qaado iyadoo la og yahay in kumanaan shacab ah ay hubka haystaan ma loo baahan yahay hub kale in soomaaliya la keeno waa mahadsan tahay shamis waa mahadsan tahay dadka soomaaliyeed haddaatan waa ka hadlay hubaa gacantooda ku jiro hubkan inuu gacantooda galo sax maaha laakiin dowladnimadaa u baahan hubka dowladda soomaaliya maanta cunaqabateynaana saaran dagaalna shabaabaan kula jirnaa annaga iyo shabaab marka laysku keen barbar dhigo hubkay isticmaalaan iyo kan isticmaalno waa isku mid qaraxyada iyo dadka in la qarxiyo dadka in la waxayna dheeriyo weliba annagu aanan samayn karin dowlad waxay u baahan tahay hub waxaan ka hadlayna cunaqabateynta laga qaado aan leenahay waa dowladda dalkaana hubka iyo dowladdeenu marka muddadii lasoo dhaafay iyo hadda sanadkii barkii aan joognay cunaqabateynta si loo qaado caalamku standards uu leeyahay hubka lagu maamulo oo dowladuhu ay hubka iyo khatartiisa ku xakameeyaan oo ay ku maamulaan waan dejinay maanta kaydaday leedahay dowladdu la yaqaano oo maxaan ku rahdahay registration leh qoriga dowladda soo galaayo waa qoran yahay nambarkiisa iyo noociisa askariga la siiyaa iyo qoraga waa isku qoran yihiin weliba waa la isku sawiraa si askarigan qoraga nambarkaas leh inuu wato loo caddeeyo inta badan ciidamada damaanad degaaneed iyo damaanada lagu xiraa marka hore askari noqonaya inuu nadiif yahay inuu al-shabaab ahayn inaanu qoraga la goosanayn inaanu maxaan ku raha mas-uuliyad darro samaynayn waxaasoo dhan waxaan u samaynayna waxay ka mid yihiin taxadarka iyo hubka in la maaray hubku waa loo baahan yahay waa seef laba afleeya mindidu marna waxbaa lagu xalaalaystaa lagu gowracdaa marna naf bini aadanaha lagu gooyaa hadba saad u isticmaasho waay hubka marka cunaqabateynta nalaga qaado dadka hub ha la siiya ma aha dadka hub ha soo dejistaan ma aha oo haddaan mamnuucnayba qarab military o dhan inaan la soo deji karin hadduu hub yahay iyo hadduu tuuto yahay iyo hadduu wax qarxa yahayba sidaas daraaddeed waxaa cunaqabateynta laga qaadayo waa dowladeenna si ay u yeelato awood ay ku difaacdo dalka amnigana ay ku sugto ee shacabka maa wax laga qaadayo waa mahadsantahay shamis aad baad u mahadsan tahay duudkaaga meesha jiraa la yidhaha waa idin loohay haddaan muddigii su-aal jira ku soco soo kob hal su-aal waa hal su-aal waayo bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa maxamed baraale waxaan ka imid magaalada cashirka loogu dhigo nimankan ee baxdo dowladda soomaaliya haddii nimankan dagaal ugu guulayso weyso inay la hadasho ma laga yaaba mudane madaxweyne su-aasheeda waxaa la socoto haddii xilliga dagaalka lagu jiro nimanka umarada u ah nimankan khawaarijta ah ay isi soo dhiibaan dowladda soomaaliya sida hore u dhacdaba xilal waaweyn maa loo dhiibi doonaa madaxweyne waa mahadsantahay aad baa u mahadsantahay maxamed baraale waa hore haddiiba aan wada hadal nimankan aan maaro ugu heli karno oo ay naga ogolaanayaan sabab aan u diidnaba ma jirtaba sabab aan wiilkeenna ay u dilaan annagan ayaga aan u dilna ayagaba waa wiilasheeni aan u dilna ma jirto marka nimanku wada hadal ma ogola dowladda soomaaliya aniga ka madaxweynehaan intaasoo jeeraan baafiyo dhahay cafis ayaa haddana welina cafiskaasi waa furan yahay ninkii yimaado ee yidhaahdo aniga bas waaye waa ka tanasulay mabda'ii khawaarijta waa ka tanasulay u noqon maayo waa ikanaa inuu mujtamaca qof nadiifa oo mujtamaciisa ka mid a oo sharaf iyo karaamo leh oo nolol helo inuu noqdo mas-uuliyadda dowladda saaran waayo waana ka shaqaynaynaa waa qodob laba iskuma gallo qofkii sidaas hay waa cafinay nolol uma ogolin darajo uma ogolin maxaan ku raha karaamo uma ogolin inaan dhahnone macquul maaha lianna muxuu usoo baxaa
haddaad intaas u ogoleen dadka shabaab la jooga dad ka mid ahaa waxay ula jiraan tabashooyin ay qabaan oo in la bahdilay iyo in la yeelay ah dadka soomaaliyeedna kama suuro gasho dowladda soomaaliyana kama suuro gasho annagu nimankaas waa wiilasheenni waa gabdhaheenni waxaan isku haysanaa keliya waa fikirkaas fikirka hadduu ka tanaasulo berriyo madaxweyne ka noqon karaa soomaaliya wax u diidayana ma jiraan laakiin brocessow marow leeyahay wadiiqow leeyahay lagu xaqiijinayo inuu fikirkii ka tanaasulay lagu xaqiijinayo inuu maxaanku rahdaa waxaasi qalbigiisa ay ka baxeen lagu xaqiijinayo inuu ka qoomamaynayo oo waxaasi aanay sax u ahayn kadib haddee qof caadi oo shalay markuu shabaabka noqoniba qof caadi oo karaamalo ahay meeshiisii usoo noqday meeshiisii u noqonaya haddii alla yira insha allah aad baad u mahadsantahay gabdhaha igu yar magacaago saddexan deegaanka ka soo jeedo marka hore mudan madaxweyne ku salaamaya magacaygu waa Hani Kurlibax waxaanan ka soo jeedaa degmada Caabudwaaq 3 su'aalood ayaan watay inaan ku weydiiyo adoo raali ah mudan madaxweyne horay sida loo xoreeyay deegaanada ka tirsan deegaanada ka tirsan Hirshabeelle oo hore loo soo xoreeyay sida Aadan Yabaal maxaa adeeg bulsho ah oo laga hirgeliyay su'aasheeda labaad ayaa ah ma ku talagashay inaad samayso xabsi ama dad wadi kara shaqada wanaagsan ee aad qabatay hortaana aysan jirin shaqsi ama madaxweyne ka horeeyay hirgeliyay una bareeray dagaal ka dhan deegaanadeena iyo waliba dalka Soomaaliya in la xoreeyo annagana ducaan kula garab taaganahay midda saddexaad adeer kaliya lama dagaalamaysid al-shabaab waxaa kaleeto oo dagaalkaaga ku jiro mowqif runtii ay Soomaaliya oo dhan u baahan tahay meel kastoo adduunka tagnana aan dal walba ku haleyno kaasoo ah musuqmaasuqa marka mudan madaxweyne ma ku talagashay ama maxaad u hirgelin weyday inaad u samaysid guddi la dagaalanka musuqmaasuqa aada u mahadsantahay annagana ducaan kula garab taagay waa mahadsantahay su'aasha musuqmaasuqa waan tuuraynaa waa israacsanayna madaxweyne saddex gabdhood hay israacsadaan hal mar qaadayna su'aasha musuqmaasuqa haddaan furno meelo kale nala gelaysa su'aalo kale shabaab iyo shabaab kadib maxaa la sameynaa walaashay magacaaga iyo meeshaad ka timid bismillaah magacaygu waa Fartuun Cabdinuur duqarana la yaqaanaa badanaa deegaankaygu xor waayo waxaa ka soo jeedaa degmada Wasil ee gobolka Mudug waa ku faraxsanahay kulankan ee dooda ee madaxweynaha ay tahay markii ugu horeysay oo kulan noocan ah ka qayb galo inta bacdi loo su'aalo yar yar wata su'aal waxay tahay mudan madaxweyne ciidamadeena howlgallada iyo meelaha kaleeto ay joogaan oo laga xoreeyo ururka al-shabaab markii ay saldhigtaan iyo meelaha kaleeto difaaca uga jiraan badanaa waxay isticmaalaan ama badanaa waxaa lasoo weeraraa xilliyada 9 saac ama 10 saac ama 11 saac ama aroorihii ah taasna waxaa keenaysa inaysan foojignaan badan aysan ku jirin oo ah in ciidanku ay inta badan ay qaylaan marka jaadka maxaa kaaga qorshe ah inta lagu gudo jiro dagaalka lagu xoreynayo ururka al-shabaab su'aasha kale waxay tahay mudan madaxweyne waxaa jiraan dad birmageeda ah hooyooyin caruur leh oo ku nool deegaanada ay haystaan ururka al-shabaab maskaxdooduna wax qaldan ay ku shubeen maxaa qorshe ah oo dadkaas loo dejiyay markii deegaanadaas lagala wareego ururka al-shabaab waa maasanta برمدها iyo dadweynaha daawadayaasha waa salaama madaxweyne ani waxaan ka soo jeedaa degmada Galhareeri magaciiguna waa Mahad Khaliif waxaan rabaa inaan ku weydiiyo xoreynta kadib maxaa diidaa meelaha la qabsado in boolis maxalli laga sameeyo inta lagu haleyn lahaay qabiilada ciidankooda waa mahadsan saddexdaas su'aal hal mar israacsado madaxweyne haye waa mahadsantahay haddaan ka soo bilaabo hani waa mahadsantahay adeer muxuu ahaay arrinta aad ka dhawaajisay ee ku saabsan aadan yabaal maxaa loo qabtay aadan yabaal laba ceel iyo ayaa ku taalna u malaynayaa shabaabku mugay ka tegayeen horta ceelasha waa baabi'iyeen waa duugeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu tagay magaaladii biyo lahayn hore u socday meesha ku hakaday dadkii inuu biyo u dhaamiyo bilaabay inuu fariin soo diray isla markiiba dowladda Hirshabeelle dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa la carartay markiiba horta ceelasha bambooyina la geliyay waa u shaqeeyaan
waxaan mar walba soo qaadaa mathaalan ugu tegay meesha dadkii inay xorriyad dareemayaan oo ay leeyihiin 10 sano lasoo dhaafay wax kale iska daayay dugsi qur-aan xataa magaaladeena nimanka waa u diideen oo waa ka xireen laakiin maanta xoraan ay dugsi qur-aanadii dib aan u furno waa bilaabna adeegii dowladduna waa la tegay assessmentaa laga soo sameeyey mar dhowna muxuu ahay ilaahay idinkiis wuu gaarayaa waataan dhahayay safarku waa badan yahay howluhu sida speedka aan rabnay wax kuma soconayaan laakiin aad iyo aad ayaan uga feegjigana waana ku soconnaa haddii alla yidhaah marka hani taas intaasaan uga baxay tan musuqa habeen kalean u ballami doonaan ka hadli doonaa iyo dowlad dhisidda inteeda kale dowladda soomaaliya dagaalka al-shabaab bas kuma mashquulsaneen wax badan oo kaloo barnaamijka dowlad dhisida ayaa socda oo gabadhayda kelmadda ay kaga dhawaajisay ee musuqa iyo la dagaalankiisa ay ka mid tahay iyo wax kaloo badan haddii aan u imaado muxuu ahay fartuun waxay tiri ciidamadeenna waxaa lasoo weeraraa habeenka saqda dhexe ama waa beriga waa runteed qaadka keliya ma ah waa qira inuu qaadku qayb ka mid yahay 100% horta ciidamada qaad ma wada cunaan qaar ka mid aha cuno laakiin waxa reality-ga dhabta ah meesha jirto waxay tahay oo aan caawa halkan fursad ay tahay oo rabo inaan uga faa'iidaysto waxay tahay waxaa qiyaastaa sanadka 10 bilood ka hor askariga dagaalka xabadda bilaabay inta badan aan haysanin taangi oo ku dhex gabado oo xabadaha uga gabado beeba oo ku dhex dhuunto oo aan ka ilaaliyo xabadaha wiiftada iyo sniberska waxay soo shiishayaan gaadiid baabuur oo raaco oo meesha u socda geeya aanan qabin ee socdee lugaynaya wuxuu qalab ku dagaalamayo dhan garabka ku sita rasaas hadday tahay raashin hadday tahay qoryo waaweyn oo culus hadday yihiin garabkay u saaran yihiin 100 kilomitr in ka badan lugaynaya muxuu ahay maalmo gudahood inuu ku gaaro raba daal aad iyo aad u badan ayaa rakarooni waaye ciidamadeena maanta waxay samaynayaan 8 biloodoo dhacdo oo dhalato niman qoyskiisa soo arag oo fasax inta qaatay ilmihiisa u tegin oo haddaan waxaas dhahayn hooyadii iyo aabbihii meeshay ku noolyihiin aan tegin soo arag oo aan maxaan ku idhahdaa magaalo inta yimaado 2 beri aanan iska nasan 9 bilood 10 biloodoo dhalato dhacdo taagan ee sii socda ee weli sii taagan ee haddana waa sidee xaakimkaa tiraad maya nimankaan mukaan kasoo jeesana leh ayay hawshaas noo taallaaye fasax iyo nasasho inooma taallo weli qabo inuu marka daalo oo bini aadan waaye wixii bini aadan ka suurooba ay ka suuroobaan nama diidana laakiin mar walba khibrad ayaa ka dhalata inta badan waxyaabaha khaladaadka ee dhaca waa khibrad badana laga yeeshaa sooma noqdaan laakiin baabuur ku hubaysan ama ka buuxaan waxyaabaha qarxa afarta dhinac lugaha iyo motoorka iyo meel walba laga soo xijiyey bir intaa xajmigeeda la egyaho xabaddu aanay karin ninka wadaana inuu dhinto uu diyaar u yahay inuu dhintaba uu soo baxay ee soo ordayo qorada meeshaal inaad ku riddo iyo qor dhishika inaad ku riddo waa cili waaye haddii aadan nasiib u yeelan meel yar oo birahaas laisku waaweyn laisku xiray u dhaxayso xabaddu ka gasha aanan kala kulmin fiidiyoyo dhan oo yaallaa jiro oo proof ah oo ayagoo qarxaya ayagoo ordaya xabad sidii loogu wada meeshii ay u socdeen ku qarxay horta dhibka jira waa taa waxaa yaallo wiilashaas ayagoo og baabuurkan xabada inaanay karin anuu qarxayo ayay intay hor cararaan baabuurka cabdibilaaho dhishika saayela intay ku hor cararaan oo gadaal usoo jeesto baabuurka qorga dhishika intaas ku garaacaya markaasaa marka qaarkood waa ka daba tegayaa asiga iyo baabuurkii iyo wiilashii saarnay waa isla baaba'ayaan marmarna waa fursaday u helaan waa qarxiyaan baabuurkii qarxayo bug muga carada tiraasaad u leedahay wiilashii labadii wiilkii baabuurka waday iyo kii maxaa qoraga watay qoray riday meeshii ku dhamaysaa u leedahay baabuurkii ordaa kasoo dhex baxaya nasiib wiilasheenna ciidan adduunka maanta ka dagaalamo oo sida ay u dagaalamaan iyo duruufta ay ku dagaalamaan iyo geesinimada ay muujiyaan ciidan maanta muujiya adduunka ma jiro ciidan waa mabiro waaweyn uu ku qofulan yahay gantaalo iska hormariyaa dhuluu burburiyey oo la baabi'iyey oo tagaa laakiin ciidan socdo miinaa jidka ku jirto baabuur qarxayo waa filaya nin qarxayo qof qarxayo ordayo faq meel inta kaaga soo yira isku kaa duuba isku kaa qarxinayo intaasoo dhan inta u bareera haddana sii socdo maalin walba guul sii gaarayo
muxuu ahay ma waxaysna markaa ma eedaysna laakiin duruufahaas aad tilmaantay oo ma marka qaarkood dagaalna waa maalin waa guulaysanay maalinna waa laga guulaysanaa inta jeero shabaab ay naga guulaysteen waxaa 100 jibbaar kusoo laabma inta jeeron ka guulaysanay dagaalkuna waa dabeecadiisa sidaas ah marka wiilasheena mar kale waa ammaanan yihiin waana ducaysan yihiin waa mahadsantihiin aad baad u mahadsanta su-aalaha kale ee baraha bulshadeen soo daabacnay ayaan aadaynaa madaxweyne xasan sheekh ninkan wuxuu ku weydiinayaa axmed iyuu magaciisa kusoo koobay wuxuu leeyahay waxaad sheegteen dhowr jeer inaad shabaab kala dagaalamaysaan dhinac dhaqaale dhinac military mahad su-aashiisi yaanan ka jawaabin haye mahad su-aashaadii waa regal hareeri oo meesha loo socdo haa maxay ahayd iigu celi boolis haa raalaha marna maanaan dhihin qabiilka meesha maamuli doono laakiin dee duruufuhu boolis taagan oo diyaar garaysan oo gaardinayo meesha la geeyo ma hayno dowladda federaalkana inay boolis degmooyinka u qaybismaba ahaba dadka macawisleyda ee degaanka xoreeya ayaa qaar boolis noqon doonaan oo ay ilaalin doonaan degaanka haddii alyira marka waa la tababarayaa waa la qalabeynayaa waxbarashadii ku habboonada ku la siinayaa ayagaa booliis ka noqon doona degaankooda degaan kasta dadkiisa waaye marka reer galhareeri ilahay idinkiisa reer galhareeriya booliis u noqon doona haddii alyira insha allah aada u mahadsantaa ninkan wuxuu ku leeyahay waxaad sheegteen in shabaab aad kala dagaalamaysaan dhinac dhaqaale mid military iyo mid afkaar diimeed marka laga soo tago guulaha dhanka militariga haddii midda afkaarta diinta ay sii faafayso masaajidadii iyo madrasooyinkiina tuhun badan laga qabo dowladda kaalin ma ku leedahay in masaajidada dib loo eego iyo madrasooyinka aada iyo aada u mahadsan tahay waa run dagaalka fikirka ah waa dagaalka ugu dheer oo marka dambena hari doono dagaalka militariga ah waa dhammaanayaa kan cunaqabateynta dhaqaalaha aan shabaab saarnay lafsadeedu waa dhammaanaysaa laakiin midka fikirka ee 16 sano muddo ku dhow bila ka dhiman yihiin la faafinayey ee dadka diin looga dhigay ee dad badan oo wax magarata ah la waxeeyey shabaab oo tafsiir qur-aan meel ku akriyo ama muxuu ahay minhaaj meel la fadhiyo akrinaya lama arkee kutub yaroo ayaga ay leeyihiin oo dadka lagu takfiiriyo ayay u akriyaan dadkana farsamooyin ay ku maskax dhaqaan ayay leeyihiin fikirka waa socon doonaa intii muddo ah laakiin dee waa lala dagaalamaa waana ka dhib yar yahay waa ka muddo dheer yahay dagaalka militariga ah oo waxaa laga yaabaa inuu sii socdo bilo iyo sanadaba inuu sii socdo waa laga yaabaa laakiin fikira looga hortagaa lagu baabi'iyaa afkaartii lagu baabi'inayna afkaarta oo muxuu ku rahdaa dhexdhexaadnimada ee diiniga ah ee culimmadeena iyo dadkeena inta badan ay aaminsan yihiin waaye waa laga sheegay waxaa soo haray masaajidda annagu cid gaaroon hadda tuumsannahay oo masaajid hebelna waa saan shabaab ayagaa masaajidda xirxiri jira qaarkood waxay jira ma jirto masaajidku waa masaajid ilaahayaa loogu dukadaa lagu cibaadaystaa lagu waxeeyaa dugsi qur-aankana ilmaha qur-aan lagu baraa laakiin dee dowladdu waa inay ilaalisahay ka warqabtaa meeshii fidno iyo fikir qalloocan iyo balaayo laga wado masaajidka ma ahana ninka wax ka dhex sheegaya laga dhex bixinaya masaajidku waa masaajidka inay beri waa ku dukanayna laakiin midka fikirka xun meesha ka sheegayo hadduu imaam ka yahay hadduu khadiib ka yahay iyo hadduu qof masaajidku kusoo dukado yimaado uu yahayba uu balaayo meesha ka faafinayo asaa laga qabanaya masaajidka laakiin masaajidku masaajidkiisu ahaanaya dugsi qur-aankuna dugsi qur-aankiisu ahaanaya macalinkiisu hadduu xun yahay macalinkaa la bedelaa markii ugu horeysa taariikhda ayaa wasaaraddeena tacliinta hadda waxay ka shaqaysay macalimiinta dugsi qur-aanka iyo barashada qur-aankaba in lagu daro manhajka waxbarashada oo macalinka dugsi qur-aanka joogaahe la tababaro oo macalin tababaran oo nidaamku ilmaha ugu dhigi lahay dugsi qur-aanka iyo qur-aanka iyo si wuxuu akhlaaqdooda iyo aadaabtooda iyo tawciid u hagaaji lahay macalin tababaran ayaa dugsiyadeena qur-aanka dhigi doona mar dhow manhajka oo waxbarashada dalka ayaanu ka mid noqonaya dugsi qur-aanka haddii aan la yiraha waa mahadsantii aad baad u mahadsantahay walaal hal su-aal magacaaga iyo deegaankan ka soo jeedo magacaygu waa cabdiraxmaan cabdullaahi waxaan ka yimid magaalada cali kibir su-aasheeda waxay tahay mudane madaxweyne anuu kaaga mahad celinayna waktigaaga al-shabaab waxa ugu badan oo ku adeegtaan oo ay isticmaalaan waa dhallinyarada soomaaliyana waa ognahay shaqa la-aanta reydka ay joogto dhallinyaradaas madaxweyne maxaa u qorsho ah markay shabaab ka yimaadaan ama hay soo dhiibaan ama dowladdu inta meesha qabato xoogha lagu soo qabto waxaan ognahay meelaha qaar
qaar inay jiraan dhalinyaro oo dhaqan celin loogu sameeyaan inta ugu badan qofka sanadu ku jira magaaladu galaa wuxuu haystaa ID card dadka kula dhex oo ID card dadka kula dhex noolaado sidaas waxaa laga yaabaa inuu dambi kale sii geysto kuwaasna madaxweyne waqtiga ma loo badin karaa ama qorshe kale ma loo dejin karaa mahadsantahay haye qofka kale oo israacsanaynaa saddex waya bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa axmed faafaale waxaan runtii u mahad celinayaa hay-adda GRD waxaan sidoo kale u mahad celinayaa madaxweynaha qaranka mudane xasan sheekh maxamuud oo runtii waqti badan gelinaya dalkan inuu caqabadda ugu weyn ay ka gudubto su-aasheedu waxay tahay sida madaxweynuhu hore u sheegay ciidamada hadda aan haysano kuma filna dagaalka shabaab ciidamada qaranka sidaas darteed waxaan u baahannahay inaan ciidamo badan oo qabaa'ilada macuusleeda la helo dagaalka shabaabna waa jihaadkuna nafta iyo maalka intaba waa lagu galaa mudane madaxweyne maxaa dowladdaada uga qorshaysan sida macuusleedu ay dagaalka u galayaan oo naftooda u huraayaan dadka kale Soomaaliyeed ama diasporada ah ama ganacsatada ah inay ayaguna ku deeqaan dhaqaalaha ay haystaan dagaalkaas socda oo aysan dhicin in ciidamadeenu aysan raashin iyo sahay aysan weynin midda labaad waxa weeyaan maamulada meelaha la qabto madaxweynuhu waxaa dhacda in isla markii ayadoon liberationkii macnaha ama xoreyntii lagu guuleysan oo shabaabka ay joogaan meel u dhow in maamul loo magacaabo maamulada dowlad goboleedyadu ay isla markii degmudii maamul u magacaabaan magacaabistaasna ay keento in dadkii ku kala qaybsanaan oo aan si maaragta balance ama lagu wada qanacsanayn loo sameeyo maxaa ayadana idin uga qorshaysan madaxweynaha qaranka maadaama adigu aad tahay waa mahadsantahay hogaaminaa laba su'aalood ugu filan haye qofka saddexaad kadib jawaabaha madaxweynaha siinayna bismillahi raxmaani raxiim madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo dhammaan martay sharafka waa salaamaynaa waxaa saakayna casuumay aniga iyo abwaan cabdidhuux yuusuf wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka ee galmudug waxay noo casuumeen inaan ka caawinno oon gacan ka siino golo abwaan ahaan dhinaca wacyigelinta dagaalka lagu jiro si aan qayb uga qaadanno markii aan magaalada soo galnay ilaa saacaddan hadda ah hal baabuur oo makarafoon la wareegaya ma aanan arkin madaxweyne wasaaraddii markaan aragnayna wasaaraddii gaadiid ma hayso telefishinkii ma hayso abwaan adoo mahadsan dagaalka shabaab su'aal naga weydii wasaaraddu mar kalan dagaalku waa af iyo adina ma ku tala gasheen wax af ah in dagaalka waa mahadsanta abwaan baraarujinta waaye aye madaxweyne waa mahadsantihiin cabdiraxmaan barnaamijka dhaqan celinta waa run waa socdaa laakiin sida uu socdaa si yar oo pilot project ama muxuu project tijaabo ah oo bal waxaan siday u shaqaynayaan si kale iyo hal arka ahayd waaye capacity-ga ama awoodda barnaamijkaasaana intaas yar iyo muddadaas kooban la ekayd laakiin dowladdu wixii laga bartay oo barnaamijkaas laga bartay dhaqan celinta hore ee jiray daraaddeed hadda xarunay dowladdu ay dhowaan dhistay la yidhaahdo xarunta tubtasan oo ah dadka in xagjirnimada iyo falalka dheeraadiga oo dhan lagala dagaalamo waa qodob barnaamij kale oo hubka dhigista iyo dhaqan celinta ah na waa goonigiis asna waa u dhaqan gelayaa xaruntaas tubsan waxay samayn doontaa xarumo badan ay dowlad goboleedyada dhan inay ka abaabusho xarun dowladeed waaye si dadka maxaan ku rahda loogu dhaqan celiyo dhaqan celintuna meeshaanaad ku xeraysneed muddood ku jirta bes maahane haddii qofkan banaanka u baxo wuxuu ku shaqaysa farsamooyin in loo helo la baro iyo wax lamidayo marka dowladda qorshe cad ayaa uga degsan muxuu ahay haddii alla yiraahdo arrinta dhaqan celinta waxaa kale oo aan rabaa axmed faafaale waa run dowlad goboleedyadu dee annaga lafsadaan haddana waataan dhahayay meeshii haddii ay ka tagaan nimankii dadkii isku soo haraan waa in dad loo magacaabo laakiin magacaabistaasi waa kumeelgaar kulli waataan hadda dhehayna waa kumeelgaar dib u heshiisiin isu soo dumid dadkii khilaafkii jiray qofkii qof kale wax ka sheeganaya grievancy jiray in laga wada hadlo maamulkan la magacaabay loomana sinaa karo mana badna mana dhammaystiri karo waa run dadkuna qof walba lama dhegeysan waa ka imaan karaan muxuu duruuftaas sheegaysa laakiin waa kumeelgaar maalinta deegaanka la xoreeyo fursad ugu horeysa timaado dadka deegaankaas deganoo dhan inay intay isku yimaadeen wada tashadaan la yidhaahdo maamul saan u yaallo inay samaysataan la rabaa ayagu ay maamuladooda ay samaystaan waa la gaarayaa laakiin inta ka horeysa waxaan rabaa dadka soomaaliyeed in aanay khilaaf
iyo kala qaybsanaan aanu ku abuurine meesha wax kasta waxaa ka xun firaaqaa ka xun cidladaa ka xun qof mas-uula wax laga weydiinayo inaanay jirinaa ka xun waana dhulkan ballaaruna soomaaliya sababta ay shabaab ku qabsadeen qof maanta wax laga weydiiyan la waaye markay dhulka ku habsadeen marka insha allahu tacaala waayo aragnimo iyo casharo ayaan ka qaadanaynaa khaladka haddii aan ka cabsanana weligan hore u socon mayno inaan howl qabanaa muhiima khalad hadduu ka soo baxana aan dib u saxno oo aan sii hagaajino insha allah fursad iyo waktina waan u haysanaa abwaanka waa run baraarujinta haddee abwaan horta wiilasha dhuusamareeb joogo keliya maaha wax dagaalka aadaya degaanka dhuusamareeb magaalada dhuusamareeb maaha shalay gurceelaa intaasoo ciidan ay ka dhaqaaqday maalintii ka horreysay cadaaday ka dhaqaaqday oo meesha hadda raggaan ay sheegayeen meelo lamida tagay gaalkacyo kuwii kasoo dhaqaaqay iyo wasiil waa soo gudbeen waa socdaan dadka dhaqaaqayaa waa dadkaas macwisleeyaa la yiri wiil suudsita lama dhihin marka dadkii macwisleedaa runtii abaabulkaas wuu gaaray waanay ku jiraan laakiin waa kugu raacsanahay wacyigelin kama soo harto dadka caqligooda iyo maskaxdooda iyo dareenkooda in la taabto oo wax loo sheego kama soo hartaan isleeyahay marka baraarujinta waxaa ka mid a midda hadaatay ou axmed uu ka hadlo eeday deeq in dadka ciidanba waa la weydiiye dadka deeq maa la weydiiyo deeqda waa la weydiiye waana wadayna haddii alla yihahdo laakiin xoola bixisku waa dhib badan tahay waad garanaysaan annaguna sidii shabaab ma ahanoo shabaabku dadka maalina zaka ahaan xoolaha uga aruursado maalina muxuu taageeradii jihaadka waa yiraa ka aruursada maalinta kana jufeebr inta u taga lacag intaasaa idinku qorane keena yira maya annaga dowladda cashuuray qaadaa dadkana wixii muxuu ahay zakawaad iyo muxuu ayagaa u madax bannaan oo laga rabaa inay bixiyaan haddii la waa mahadsantii baraha bulshada su-aalaha nalaga soo weydiiyaan aadayna cabdifataax xaaji cali london buu ka soo qoray wuxuu ku leeyahay madaxweyne dhulkan hadda dagaalka uu ku wajahan yahay ma tegi doontaa dhulkan hadda dagaalka uu ku wajahan yahay ee lagu socdo marka la qabto ma tegi doontaa haa waa tegayaa hadda ka horna dhulkii la qabtay waan tegey waana aragteen waa muuqatay ayada oo weliba aada loo diidan yahay oo laleeyahay amnigaaga iyo waxaaga iyo ma sugna ee dhulka ha tegin waan tegey haddana waan tegayaa wiilal dhallinyaraa oo 20 jiro ah oo curdan ah ayaan dagaalka u dirnay oo ku dhintay kuna dhaawacmay marka oday waa yeela inuu xataa hadduu ku dhimana oo ku dhinto maxaa diidaya waa tegaya insha allah aad baa mahadsanta madaxweyne reer dhuusamareeb aan usoo noqonaynaa walaal ii istaag magacaaga oo saddexan iyo hal su-aal بسم الله الرحمن الرحيم مقعي ودمان حسن حرز حاشي waxaan ka soo jeedaa dooyinka galhariiri iyo ceelbuur waxaan rabaa meeshaan uga mahad celiyo hay-adda g r d iyo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya waqtiga uuna siiyo waxaan rabaa laba qodob oo muhiim ay u tahay inaan ka hadlo siyaasi ahaan inaan madaxweynaha meeshaan caawa ka raali gelino dowladda federaalka soomaaliya oo aad madaxweynaha u tahay iyo ummadda soomaaliyeed oo rabta inay deegaanadan wax ka xoreen waxaa waaye su-aaluhu inta badan hadda meesha lagaa weydiiyey inta badan faraha bulshada waa laga sheegayey soomaaliya deegaan ay kala leeyihiin ma jirto waxaan rabnaa dadka macmusleyda ah oo wax nala xoreynaya inaan meeshan ka raali gelino ka siyaasi ahaan iyo ka deegaan ahaanba oo madaxweyne lagu horeeya waxaan kaloo rabaa inaan madaxweynuhu kaaga mahad celino su-aasha waqtiga aadna siido oo madaxweyneyaal badan oo hore aysan na siin sababtoo ah 20 sana deegaanada nida la haystay dadkii waa ay dhinteen niyadday ka dhinteen waa soomaaliyada waa kaaga mahad celinaynaa su-aasheedaan rabaa inaan usoo laabto madaxweyne maalintaad imaatay iyo waqti badanoo kuleyta aan kulanay waxaad noo sheegtay adiga iyo shabaab hal mar inaad ka wada tegi doontiin galmudug waxaan ognahay ceelbuur iyo dhuusamareeb 100 iyo dhowr kilomitir isku jiraan deegaanka xiin dheere ilaa ceelbuur ilaa wabixinta udhexeeyana waqti badan u dhexeeya ma laga yaabaa madaxweyne inaad ka caajistid maadaama ay u baahan tahay xaaqinka hadda aad sheegayda waddanka in la xaaqo waan ognahay dagaalku waa mooraal saraakiisha dirira iyo dadka macamusleydaana inta aad joogtay mooraal ku dirirayaan waxaan rabnaa madaxweyne waqtiga aad noo sheegtay suurtagal mata inaad ka suurtagelida waa mahadsan tahay xasan aad iyo aad aa u mahadsan tahay horta dalka aniga taaka uma istaagi karee laakiin structureka dhismaha dowladnimada iyo nidaamku waxa aan hadda mar walba dhulku waa ballaaran yahay
hadda oo shabaab naga haysto weli nooga jiro laakiin mar walba afka waxaan ku dhufannaa ceelbuur iyo galhareeri sababtaan ugu dhufanayna ceelbuur iyo galhareeri dalka intiisa kale inay ka fiican yihiin maane waa administrative structurekii yacni qaab dhismeedkii maamulka dawliga ah meelihii uu ku magacawnaa uu ka jiray oo maxaan ku raha barta u ahayd waaye laakiin ilaahay idankiis dalka soomaaliya meel walba ku taalla waa tegaynaa laakiin hadda waxaa muhiimka waxay tahay deegaanadaas marka la xoreeyo saan hore u sheegay waa tegi doonaa haddii alla yidhaha sidaan deegaanadii hore iyo degmooyinka hore la xoreeyeyba aan u dhex istaagay hadda ka horna waa ti hadda halkan looga hadlayo ceelbuur markii la xoreeyey waa tegey haddanaad ilaahay idankiis waa tegayaa anoo kalsooni badan qaba weliba in aanu cadow kusoo noqon doonin haddii alla yidhaha insha allah aad iyo aad umahadsanta waa hagaag gabdhaha waa nugu yarayhiin hore u riixaa السلام عليكم مدعي بريستول deegaankeena waxa waaye galmudug farxad bay tahay maanta madaxweynaha inuu nala joogo oo su'aalo weydiin karno su-aasha koowaad aan rabay inaan weydiiyo madaxweynaha waxay tahay deegaanada hadda dagaalada ka socdo markay ka dhamaadaan dagaalka oo askarta ka baxaan what's the plan next oo isa maxaan hadaa sidana shabaabka ugu soo noqon maxaa la hayaa oo prevention measurements oo la sameyn karo oo lagu badbaadi karo dadkaas inay again shabaab gacantooda kusoo noqon aad ayaa umahadsan tahay amaal cali waa ku aqaanaa oo ku faraxsanahay inaad dhuusa mareebta midood joogtid amaal isma sheegin ayada magaalada bristol ay xildhibaan ka noqotay marka gabar soomaaliyeed oo maxaan ku yidhahdaa macno badan la waaye amaal waa mahadsan tahay amaal dabcan dadka deegaanka haddii laga xoreeyo nimankaa cadowga ay haystaan waxaa noo qorshaysan dadka noloshooda in wax laga bedelo waa taan hore u sheegay noloshooda the life of the people in wax laga bedelo oo tacliin ay helaan oo caafimaad ay helaan oo biyo nadiif oo cabaad ay helaan amni ay ku kalsoon yihiin inay helaan dowladnimo inay dareemaan dadka oo ka bacdina horumarkooda hadday xoolo leeyihiin hadday beere leeyihiin deegaan kasta waxa uu habnololeedka dadkiisa ay ku nool yihiin in loo hormariyo kii xoolo dhaqashadii loo hormariyo loo casriyeeyo kii beerale beerihi in loo waxeeyo kii khayraad kale oo dhulka ku jiro deegaankiisa uu leeyahay in khayraadkaasi sidii looga soo saaraa laga shaqeeyo so packages waaweynaa jiro oo dowladdu ay ugu tala gashay in mustaqbalka lagu hormariyo sideedabana waxaan rabaa inkastoo saaxiibkii catoosh uu yiri mawduuc ayaan laga bixin dadka ummad haddaanay lahayn fogaan arag meel fog aanay wax ka fiirin oo wakti fog aanay wax qorshaysanin oo sida ay noqonaysa berri siday noqon doonto aanay maanta ka shaqayn oo go-aankeeda maanta aanay gaarin aanay iska daayin inay ku mashquulaan shalaydii lasoo dhaafay iyo wixii dhacay wax ka barasho waxaan ka ahayn dalka soomaaliya 1960kii ayuu xor noqday 2060 wuxuu xor yahay 100 sano maanta waxaa qorshaheedii socdaa oo laga shaqaynayaa 2060 haddii la gaaro soomaaliya noocee ah ayaan rabnaa oo dad badan oo dhallinyaraha inta fafadhiya ay joogi doonaan maalintaas oo ay talada ku jiri doonaan oy dad xooggan noqon doonaan raggeenna waaweyn maalintaas ama waa iska tagnay ama maxaadaan joognana talo kuma jirno maanta waxaan rabnaa 37 sano kadib soomaaliya say u ekaanay marka soomaaliya barwaaqaa oo horumarsan oo aada u qurux badaan rabnaa si ay u timaadana waa in horumarka uu ka soo bilowdaa degmadaas ceelbuur aadan yabaal maxaan ku ihahdaye cadaado maxaan ku ihahda tayeglow maxaan ku ihahdaye muxuu ahaaye inuu ka soo bilowdo horumarka oo saas usoo socdo dowlad goboleed kasta ay soo horumarto dalku markaasoo wada horumarayaa marka ilaahay idankiis wax weyn ayaan la damacsanahay dadka soomaaliyeed laakiin dabarka in laga furaa horta ugu weyn annagana ma ahin kuwa soomaaliya weligood joogaya weligeed xasan sheekh ma joogaayo aniga 4 sano la doortay dalkan maxaa u qaban kartaa yaa igu taagan waxa ugu weynan u qaban karana waxaan u arkay inay tahay in shabaab laga xoreeyo kow iyo waxa kaloo dowlad dhisidaa kusoo xiga haddii alla yidhaah waa mahadsantiin aad baad umahadsanta su-aalaha madaxweyne waxaan jecelnahay inaan laba saddex isu raacino wiil dhallinyaraha istaagay ku soco magacaaga iyo deegaankaad ka soo jeedo السلام عليكم مدن مدحوينه aad aan kaaga mahadcelinayaa magacaygu waa cabdiweli maxamuud cali waxaan ka soo jeedaa degmada xeraale ee waqooyiga gobolka galgaduud su-aashayda aan rabo inaan ku weydiiyo ayaa ah mudane madaxweyne hadda ka hor waxaa dhacday aniga caawa waxaan u hadlayaa shacabka reer bacdweyne iyo dadka degan degmada bacdweyne hadda ka hor waxaa dhacday dayacaad ay dadkaas la kulmeen
dowladdii hore iyo tan ka jirta dowlad goboleedka galmudug sidii hadda ka hor dowladdaas ay dayacaan ma laga yaabaa in aysan u dayacin dowladda ayagoo meeshaas hadda ka hor dad badan dhibaato ay kusoo gaartay raggaas dhabar adeegeen la dagaalameen la googo-een aan xitaa weliba xitaa hal qof oo ka mid ah aan loo fodin gurmud dhanka dowladda mideeda kale su-aasheeda labaad waa soo gaabinayaa dagaalka keliya ma ahan horta cadow badan aan leenahay waana maandooriyaha sida labaad ayaan rabaa inaan ku weydiiyaa waa maandooriyaha madaxweyne maxaa kaaga qorshaysan sida aad ula dagaalamayso kooxaha khawaarijta sida maandooriyaha jaadka daraagiska nooga yimaada dalalka aan dariska nahay sida Kenya iyo Ethiopia ayadoon dowladdeena wax faa'iido ay isku qabin ay tahay dowladda waa maasanta laba su'aal oo qurux badan waa qofka xiga waan israacinaynaa laba saddex ku soco waa ku soconaa magacaygu waa calas cabdinuur barre mudan madaxweyne waa kaaga mahad celinaa fursadda aadna siisay cabdirasaaq oo adiga waxaan ku leenaha dulqaado reer mudug warka ilaahay u fududeeyey iyo madaxweynihii oo macallin asalay intaas kabacdi waxaan rabaa hal commenti iyo hal su-aal inaan bixiyo halka commenti bulshada meeshaan fadhidaan raba inaan idhaahdo su-aasha qofkii la weydiiyo oo qofkan u weydiiyey aysan ugu celceline qofkaas uriga ha ku qaadato annagoo waqtiga ilaalin arartan aan iska dhaafno anagu hadda aan ku jiraya su-aasheedu waxay tahay mudana madaxweyne 12 habeenaad dhufan reer joogtaa si fiican reer galmudug kugu soo dhaweeyeen halkan waa su-aal gardhigasho ah su-aasheeda oo garnaqasho ah muddadaas aad joogtid si qurux badan ayaa u aragtay diyaargarowga ka socda galmudug hadda ka hor mar aad timid wisil iyo baxdana amar aad bixisa waxaad tidhi ciidamadan jooga meeshaan ee kuwa doorawishda galmudug iyo bulshada meeshaas joogta inaad tagtaan xara dheere way tageen ciidamada ugu badan ee u dagaalamaya dowladda federaalka waxay u badan yihiin reer galmudug furun kasta ha ku dhinteen soomaaliya meesha rabta ahaato haddana waxaan degannahay xudunta soomaaliya kala bartaan degannahay madaxda ka soo jeeda galmudug ee siyaasiyiinta ahna waxay yihiin dadka ugu jilicsan federaalka markii la yidhaahdo siday ugu dhaga nugul yihiin waxay tahay su-aasheeda dib u xoreynta kadib anagoo mid kaaga amaal hayna sidii aad ugu heelisay dhismihii galmudug 2015 markii cadaado la joogay haddana waxaan rabnaa dhiiggaas aan hubayno iyo kartidaas iyo juhdigaas aan bixinayno maxaa amaalmarin aad nooga dhigi doontaa haddaanna reer galmudug waxaan ognahay maamul goboleedyada soomaaliyeed inay dhacdo boqolaal gaadiida in loo soo dejiyo maamul goboleed dekeda loo dhiso aeroborha loo dhiso mashaariic la siiyo galmudug iyadoo intaas ay tahay maskaxda isku haysaan aaminsannahay reer federaalka haddana ma aragno inay fursaddaas nagula faa'iidayso cid isa keensan kartana ma jirto oo la dhigi karto iyadoo maamul goboleeda anta dowlad ma macaamilayo wax iska soo hela ma jirto saxiixa dowladda federaalka madaxweyne ugu sarreeya ku yimaadaan mudan waxaan rabnaa hal comment hal caawa hal qodob oo noo ballan qaado waa xoreynaa shabaabkan ku hara intaa yartaa ma qaadanaysa waqti dheer soomaaliyana waa kuu raacaynaaho ilaa waxaan kula tegaynaa xadka على سامها سنت على سامها سنت وحنا بدلته بسم الله الرحمن الرحيم من مدحوينه waa soo dhawo marka koobaad waxaan kaloo mahad celinayaa asxaabta GRD magacaygu imid Gurceel عادله Gurceel magaalada Gurceel aan ka imid Yusuf Xasan Cali laba qodob oo ka kooban yahay dagaalanka hadda ah oo xabadda macnaha ay furmaha horta kaas madaxweynuhu ciidanka okay ciidanku qorigii iyo hubkii iyo gaadiidkii waa ay la aadeen yihiin iyo hadday ciidankan qaranka yihiin intaba rabaa in ciidanka keliya aan meesha looga harin dhaqankii iyo culummadii iyo dhalinyaradii iyo haweenkii in mataqaanaa lagu biiriyo si ay mataqaanaa gubaabin iyo dhiirigelin ay u helaan iyo wacyigelin labo mas-uuliyiinta dowladda qaybtooda ayagana mataqaanaa horta in lagu daro ay ciidamada mataqaanaa wacyigeliyaan waayo waxaa la rabaa mas-uuliyadda qarankay xambaarsan yihiin si aan xadgudubyo aysan u dhicin
oo image-ka dowladnimada loo ilaaliyo taas waa qodob soco waa lagu maqlaa soco waxay tahay dib u xoraynta kadib macnaha waxa weeye in la dabar jaro ee argagixisadu dalka iyo deegaanka ay ku beertay iyo la dagaalanka fikirka guracan ee al-shabaab in laga bilaabo deegaamada xorta oo hadda dhuusamareebo ay ka mid doon caawa u joogna macnaha in laga bilaabo oo meel kasta wacyigelin loo diro taasoo dhan ay waxeeyaan aad iyo aad waa mahadsantaa saddexdaas su-aalood ka jawaabadeedna waxaan aadaynaa baraha bulshada sababtoo ah telefishinno iyo bara bulsho fara badan baan toos ugu jirnaa waxaan rabnaa dadka dhuusamareeb aan caawa nala joogin inaan fursad siino madaxweyne xasan sheekh waa mahadsan tahay cabdiweli bacaadweyn ayuu ka hadlay waa runtiis bacaadweyn dhibaata ka dhacday dadka soomaaliyeed oo dhan iyo deegaan kastayna dhibaatadu ka dhacday berigaas dee anigu hadda maamulka mas-uuliyaddiisa ma joogin oo dowlad kalaa joogtay u malayn maayo dowladdu inay wax ka aqra laheeday si unbaa wax uga sirkacdeen laakiin arrintaas deegaankaas dadka degan in keligood lagu daayey oo aan garab istaaggii ay mudnaayeen aan la siinin waa arrin in badan laga wada hadlay dad badan ay garaawshiyo ka bixiyeen oo ay qireen in dadkaasi xoogaa laga gaabiyey mas-uuliyiintii deegaankaas ka soo jeeday oo dhan iyo raggii iyo odayaashii dhaqanka iyo maamulkii bacaadweyn lafteeda ay ka mid yihiin halkaanaan ku aragnay si dhaba oo kama dambaysana waa u ballannay waxaan rajaynaynaa in aanay dhici doonin midaasoo kale markaan haddii alla yiraa shabaabne inaanay fursadba u heli doonin hal magaalo oo hal jufo ay degan tahay inay xooggooda isugu geeyaan ay weeraraan bacaadweyn shabaabku waa iska celiyeen kumana aadin shabaab laakiin xooggoodii o dhan bay isugu geeyeen ay meel kastoo joogeen markaani fursaddaas shabaab ma haysta ilaahay idankiis markaa kalsooni badan qab cabdiweli haddii alla yiraa ma dhacayso taas calas haddee abaabul naguma yara waanan hadalnay odayaashana gooni baryahan dhan aniga inta wax kale kuma hayine beelaha iyo qabaa'ilka iyo odayaasha iyo mas-uuliyiinta heer dowlad goboleed iyo heer federaalba halkaanaan ku qaabilayey oo aan dhammaantoodna muxuu ahaaye frontiga hala aado ayaa bottom lineka ama xudunta hadalkeenna uu ahaay waana odayaashuna runtii iyo dadka deegaanada ma aha wiilashoodii macuusleydahay bas inay baxeen odayaashu kama harin waana ognahay odayaal badanaa ku dhintay waxaa aada caam u oo la wada yaqaanaa sheekadii cilmi hagar gobolka hiiraan waa la xasuustaa asagoo qoraysito dagaalamayo shabaab la dagaalamayo ayuu dhintay odayaal kalena sidoo kale qaar shabaab meel ku gaadmo ku dila iyo kuwa uu waxay fronti ku dhintay intii ka dhexle culimaa ku jirtay magaalo yaroo hadda ka hor aan taganin odaya oo sheekh ahaayo tusbixiisa asoo qoorta ugu jiro qorigiisaas nin weyna ahay weliba oo maalintiina meesha mugaan tagay si aada uga hadlayo dadka wacdi iyo gubaabi wax walba isugu daro yir waa ii jeedin da-da aan ahay qorigan anaa sito maalin walbana dagaal deegaankan ka dhacoon maalin ka maqnaay ma jirine odagaas laftiisa aan hadda magaciisa ma xasuusto laakiin wuu ku geeriyo wuu ku dhintay waa shahiiday asoo dagaalamayo dhintay marka laguma kala maqno meesha dadkeena magaalada jooga unbaa xoogaa magaalada islaxa jeclaysiinaya mooyaane dadka muxuu ahay goobaha dagaal ka socda iyo miyiga joogaay uma yara waxaan rabaa arinta yuusuf uu ka hadlay ciidanka wacyigelintiisa ciidanka wacyigelin kuma yara ciidanka structurally ayaa waa naga maqneed hadda waxaan u sameynay hogaan dhan hogaanka wacyigelinta la yiraha ciidanka u sameyn horta ko hogaankaas culimo uu leeyahay abwaaniin uu leeyahay fanaaniin uu leeyahay dhammaan kama maqna ciidamadu mugay baxayaana yaa la wacyigeliyaa lala hadlaa goobaha ay joogaanna waa lala joogaa waa loogu tagaa ciidan kastana sarkaal wadaad ah oo wacyigelinta diiniga ah weliba iyo khuluqa suuban saabsan ayaa ka mid noqonaya meeshii aanu weli gaarin meelaha qaarna wuu gaaray waaba ka mid marka dadku waa run xagga wacyiga haddaan laga dhisin oo wacyiga dowladnimada wacyiga maxaanku yidhaha amniga wacyiga maxaanku yidhahda soomaalinimada dadka haddaan kor looga qaadin kuwaas xunxun ee shabaab oo kalea iyo midka xuno ra'yi waayey oo qabiil ku dugaalayo tol beelaya haddaan reer hebelnahay maanta oo dhan ku jiray iyo waxaasaa dadka nooga xoog badanayo laakiin wacyigelintu waa barnaamij weyn oo dowladnimo oo markiisa socon doona aad baad u mahadsan tahay gabagabadii aan soo maraynaa
waxaan jeclahay laba su-aalood oo baraha bulshada ka yimid inaan weydiiyo madaxweynaha. madaxweyne, ninkan wuxuu leeyahay waa Axmed Raage, wuxuu leeyahay gulufka dagaal ee ka dhanka al-shabaab marka laga soo tago maxaa kaloo la taaban karaa oo ay dowladdaadu ka howlan tahay, mise awooddii dowladnimada oo dhan waxaad isugu geyseen dagaalka shabaab? ugaas xasan waxa uu ku leeyahay ehelkayga ayaa jooga ceelbuur, hubanti intee la eg ayaad siinaysaa in dadkaas dib dambe ay shabaab u arki karin, u arki doonin marka shabaab hadda laga qaado ceelbuur? labadaas su-aalood kadib hashi su-aalo gebagabada madaxweynahan siinaynaa marka inuu noo soo xiro. madaxweyne, labadaas su-aalood. aad iyo aad u mahadsantahay Axmed Raage. waxaan leeyahay dee dowladdu al-shabaab bes kuma mashquulsana. dowladdu wixii dowladnimo ahay oo dhan ayay dowladdu ku mashquulsan tahay oo socda. hadda intaan halkan fadhiyey inta waxyaabood oon dagaalka shabaab toos u ahayn laakiin dowladdu ay hayso ama ay qaban doonto halkan ka sheegay, oo ay ka mid ahayday tacliintii, waxbarashadii, manhajkii maxaanku irahday dib u eegistiisii, dugsiyada qur-aanka inay manhajka ka mid yihiin oo tacliintii hore ka duwan dowladdu ay ka shaqaynayso. beridood waa maqashay 3,000 oo macalin in dowladdu ay imtixaan ka qaaday, oo halkan muxuu ahay dhuusamareeb oo hadda ka socdo tababarkii macalimiinta dowlad goboleedka galmudug oo ilaa 500 gaaraya, meel kasta dowlad goboleed kastana uu sidaa oo uga socdo. taas waa tii tacliinta. waad maqasheen dowladdu inay u istaagtay inay la dagaalanto musuq maasuqa iyo xatooyada xoolaha dadweynaha ood maalin kasta daawanaysaan. dowladdii dadkay rabta iska xirxiraysa saa loo dheen oo garsoorkeenna maanta joogan hadda samaynay, hadda xulnay oon dhisnay inuu garsoor saxa yahay, dadku ay ugu qancaan garsoorka dowladnimada qaybta ugu muhiimsan waaye. telefishinadii aan geeyey meesha live aan ka dhignay, dooda socotaa waa aragteen. dadku in badan oo garyaqaan oo ama aqoon la ku jirto, in badan oo caqli dadku intiisa badan caqli uu leeyahay, wixii khaldan iyo wixii saxan waa la kala arki doonaa. jawaabaha iyo su-aalaha nin kasta xorriyada la sii. dadka adduunyada marka maxkamad la geeyo qafisaa la diliyaa, waa aragteen biro sharwaqayaa gadaashooda dadku ay ka hadlaan. si aan dadkeena maadaama weli aanu dembi ku cadaanin, qofka aan karaamadiisii wax loo dhima aan u darin, waa aragteen sidii nin asagoo meel ka hadlayo bodiumkaasuu taagan yahay uu ka hadlaaho meeshaasaa lagu waraystaa, lama handado, lama caayo, lama bahdilo, siduu xorriyad oo u hadlaa. wixii laga hadleeyey ama aan la habboonayn ama uu meesha ka sheegaa, looyarkiisa difaacayo, kii dowladda difaacayayo dacwada waa la sheegay. dhibana waxaa ka ah qaranka soomaaliya, leanna xoolaha maqan xoolo soomaaliyeed waayo. haddii wiilashaasi lagu waayona waa la fasaxaya, haddii waa socotaa. ciidamadeenna hadda ciidamada maalan dagaal kale ma aha, ciidanka inta annaga gacanna waa ku dagaalamayna oo dagaalkaan kula jirnay, dowladdani gacanna ciidankay ku dhisaysay. oo maanta sanadkan markuu dhammaado 20,000 oo ciidan oo cusubaa dowladdu kusoo kordhayso, dhowr iyo 10,000 ayaa hadda muddada joogta oo cusub qalabkooda cusub wata ayaa hadda frontiirada dagaalka yaa ku aadan. oo aad arki doontaan qaarkood ayagoo dhuusamare dhex marayo usii socdo maxaan ku raha dhinacaas kala dhowaan. yacni dowladdu shaqooyinka ay ku jirto dhan, garsoorka, reformka maamulka, reformka maaliyadda, reformka maxaan ku rahday tacliinta, reformka caafimaadka. waad arkayseen wasiirka caafimaadka shar halkan uu yimiday, diyaarad daawo ah uu keenay. diyaaraddaas daawada ciidamada bes ma laha, deegaanada la xoreynaya ayaa iskale, kuwa xorta ah ayaa iskale. isbitaalka dhuusamareebaa daawada qaar la dhigay, qaar waxaa la rabaa deegaanadaas la xoreynaya iyo kuwii hore loo xoreeyey in loo sii kala qaybiyo. marka dowladdu shaqooyinka ay haydaahay nidaamkii dowladnimada ilaa golihii wasiirada oo xukuumadda ka mas-uul ahay oo fulinta ah iyo ra-iisul wasaarihii iyo wixii oo dhan xamaray joogaan, shaqadiina si rotiin ay u wadaan. tanna waa shaqo kaleo ayadana ugu muhiimsan oo shaqooyinkaasoo dhan aanay xanaqaad noqonaynin haddii aanay tan hadda aanan la waxaynin. ugaas xasan ugaas waa caawo dhanna waa ku celceliyey, waa sheegay ceelbuur ilaahay idankiis shabaab dib ugu soo noqon maayo. markii hore kusoo noqday, sababihii ugu soo noqday iyo duruuftii keentay inuu kusoo noqdaan aad iyo aad u fahamnay. markaan waa ka tabaabushaysanay, kusoo noqon maayo. waxa ugu muhiimsanna waxay tahay reer ceelbuur ayaan siinaynaa awood aanu shabaab kula soo noqon karin. maaha dowladdaa dhex taagnaanaysa oo maanta o dhan dhex joogaysa maaha. dowladdu way tagtay, shabaab waa ka ereyeysaa, kadibna muddo ayay la joogaysaa inta dadka reer ceelbuur iyo dadka degmo kasta oo laga xooday al-shabaab kalsooni in aanu shabaab imaan karin. midda kale maba ogolinba shabaab, maba
wax lagamaba qaban ba hadduu awood uu kusoo noqdo magaalo kale haddana dib ugu qabsado uu helaayaba ma dhacaysa haddii alla yira ilaahay idinkiisa insha allah marka ugaas xasan waxaa leeyahay kalsooni badan qab dowladda soomaaliya ayay magacjab iyo jiritaan xumo iyo maxaanku idhahdaa waxaan la aqbali karin ay ku noqonaysaa in degaano la xoreeyo wiilal soomaaliya dhiigooda ku taatay oo dib shabaab ugu soo qabto farantiga dagaal ka socda in xagga xagga laysu riixriixo waa macquul laakiin maxaan ku dagaal la xoreeyey oo shabaab laga eriyey dib ugu soo noqon maayo haddii alla yidhaah madaxweyne adoo taagana waxaan rabaa su-aasha ugu dambaysa oo aniga xaggeyga ka timid inaan ku weydiiyo kadib waad noo soo xiraysaa dhowr sanaa kuu dhiman hadalkaagii meel dhaweedna waxaad tiri markaad galmudug tiri aniga shabaab waan israacaynaa caawa maxaan kaa qornaa oo aniga iyo intan ku hor fadhido iyo kumanaanka hawe adduunka naga daawanaysa shabaab ma dhammaynaysaa intuu muddaxilaadkaaga dhammaanin aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay mustaqbalka iyo waxa soo socdaa ilaahay unbaa garanaya ma ogin annaga laakiin waxbaan rabnaa waxaasaan rabnaan daba kacnaa oon raadinaa siday ku xaqiiqoobi lahaayeen waxaasna wax fiican waaye waxunmaa waxaan rabnaa dalkan shabaab inagada catoosh 2 sano waa nugu dheeraysay 2 sano nala gaari maa shabaab ilaahay idinkiisa 2 sano ka hor dalkan inaan shabaab ka tirtirnaan rabnaa shabaab muddo 2 sano muddo weliba muddo hore ka horeysa dalkan waxaan rabaa fursad inuga faa'iidaysto waxa soo socda saa u sheegay ilaahay yaa qadarsa laakiin dadka soomaaliyeed aan rabaa dalkan duruufta maanta uu ku jiraayo mas-uuliyaddiisa annagaa iskale soomaali haddaan nahay caliyaa iilahaa iyo caashaa iilahayd waxba ma tarayso annagaa ka mas-uula dowlad hadday jirta annagaa ridnay mid kale haddii la dhisaayo inay dhisanto annagaa hor istaagno caqabad ku noqonay mas-uuliyadda annagaa iskale haddana inay ka baxdo mas-uuliyaddeeda annaga unbayna saaran tahay maalan waa midaas hadda aan ku jirno kaalmada aan ku helaynaa waa kaalmo kooban waa wixii annaga awood sideedaba waxaad adigu awoodda markaad qabsato ayaa waxa kaa dhimanaa kaalmo loo doontaa annagu wixii soomaali haddaan nahay in badan wixii aan awoodno oo aan qabsan weynay ayaa meeshana dhigay markaan wixii awoodno aan qabsanayna kaalmada caalamka waa taasaa na dul taagan oo nala socoto oo nala joogto daawada maanta wasiirka caafimaadku halkan keenay warshado soomaaliyeed kama ayan soo bixin waa kaalmo timid ay ka mid ahayd marka annagu dadka soomaaliyeed haddaan nahay inaanan caajisin waxaan qabsan karnay qoroga inaan qaadano oon shabaab la dirino waa dhaqaaqnay waa la dirinay waa banayna waa waxayn sidaas daraaddeed 5 biloodee soo socoto ee sanadka nooga dhiman dowladda soomaaliya qorshayaal cadcadaa u yaallo oo ay rabto inay gaarto ilaahay ma qadara inaan gaari weyno laakiin aniga kalsooni badan ayaan qabaa inaan gaari karno haddaan gaari weynana waxaa sabab u ah keliya in dadka soomaaliyeed kaalintoodii ama qof kaalintiisii la waayay laakiin dowladdu waxa ay rabtana waa caddahay hay-adaha u xil saarana waa u cadyihiin dagaalkeedana waa ku jirtaa laakiin hawshaan waa hawl in la isla qabto baan kow dalka shabaab in laga xoreeya kow ah soomaaliya sanadka inta ka dhimanaan rabnaa xaaji catoosh wuxuu yidhi 2 sano soo socoto sanadka inta ka dhiman shabaab ama dhulku shabaabaa la weyna soomaaliya shabaab waa ka tirtirmaaldhaa ama meelo yaryaroon hortaaganayo dadka soomaaliya iyo dowladnimada soomaaliya aan waxba ugu dhimi karin iyo ku soo haraa laakiin midda aan qabno waxay tahay in la waayo oo maxaan ku irahdaa soomaaliya laga waayo waa qodob midda labaad dastuurka kumeelgaarka ah oo 11 sano kumeelgaarka kumeelgaar wuxuu noqday 2012 gacanta loo taagay kumeelgaarnimadiisa inuu dhammaadaan rabnaa inuu dhammaado waxay nooga xiran tahay ma jirta annaga inagu xiran tahay inaan aqbalno isku qanacno waxaan aan ku heshiino intaan ka doodno ku heshiino wada ogol aan ku noqono haddaan wada ogol ku noqon weynana aan ku heshiino inta badan meesha ay jirto in loo qaato dastuurkaasi qodob aan u qaadano ka tashanno hay-adaha dowladda dhexdooda maaha shacabka laga tixgeliya taladooda lagu daro inaan dastuurka dhammayno ayadana sanadka intuusa dhammaan haddii aan la yidhahdo 2 soomaha 3 waxaan rabnaa cunaqabateynta hubkeena laga qaado waxaan rabaa dadka soomaaliya inaan u sheego cunaqabateynta hubka ee soomaaliya saaran waa taariikhiyan cunaqabateyntii ugu dheereed ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa intii ay jirtay dal la saaro 31 sano ayay sanadkan ka tahay 1992 sano dad badan oo wujuuh badan oo qurqurxoon oo dhalinyaro inta fadhido ma dhalan markii soomaaliya cunaqabateynta la saaray maantana waa taliyo hayan ayagaa talinayo
caalamka ceebay nagu tahay inaan xambaarsanaan waay ay noogu noqoto waxay noogu noqotay adduunyada waad aragteen cawlamada waxa la yidhaahdo ama carro edeg waxa la yidhaahdo globalizationka afka qalaad lagu yidhahdo adduunyada waa hal tuulo waa isku wada xiran tahay adduunyada meelaad tuuga ka talinay inta kale nabaday ahaanay ma dhici karto adduunyadu waa isku wada xiran tahay amniga caalamkuna waa isku xiran yahay sidaas daraaddeed nidaamay adduunyadu degsatay lagu dhaqmo securityga adduunyada waa inay saan u dhaqantaa dhaqaalaha waa inay saan u dhaqataa maaliyaddu waa inay saan u dhaqataa xuquuqda aadanaha iyo dadka ixtiraamka nolosha waa inay saan kulli dhammaan cid dal kasta oo duniyada ka tirsan waxaa laga rabaa nidaamkaas inuu dhinac ka raaco war adduunyada dowladaha ka jira sida ay hubka u maamusha aana laga waayey sababta ay cunaqabateynta naloo saaray waana laga baqay inaan adduunyada halis gelino oon khalqal gelino oo hubka meel lagu dadka tuugada ah ee ka shaqeeya hubka meel ay hubka ku baafiyaan soomaaliya inay noqoto ayaa laga cabsaday cunaqabateenaa nala saaray lagama geli karaa layidhi xuduudaheyna lama ilaalinayn laakiin dalalka hubka soo saaraa layidhi soomaaliya hubka ma geli kartiin so haddaan la nimaado waa midda haddaad sheegayay oon qorigii yimiday madficii yimiday maxaan ku yidhaha bistooladii timiday xabadii timiday aan dhahno waatan registerkeedii meeshaanay ku jirtaa xaaji catoosh nin la yidhaha qoriga nambarkan la qaatay xaaji catoosh iyo qorigii waa kuwaana meel hebeluu joogaa ciidan hebeluu ka tirsan yahay dowladdaanu u shaqeeyaa saas haddiina laga helo wixii kalena waa kuwaana maqaasiinkaadii ku rasaysiin saanaan u xafidnaa haddiina laga helo cunaqabateedii waa nalaga qaadaa haddii nalaga waayo oo qoriga askarigii soomaaliyada sicir toogta laga soo helo oo kii shabaab oo la dilay qori dowladdu ku rajistaraysaa laga soo helo nalagama qaadaayo sidaas daraaddeed waxaan leeyahay annagay nagu xiran tahay inaan isdhegaysano isu hogaansano nidaamka raacno cunaqabateynta hubka in nalaga qaado waa qodobka saddexaad qodobka afaraad wuxuu yahay deynta in nalaga cafiyo muddo 10 iyo dhowr sana waxaan la halgamaynaa deynka in nalaga cafiyo maxaan haysta ayadana annagaa isku hayo maxaan isugu haynaa waxaan nala leeyahay war adduunyada sidaanay u dhaqataa dowlad ma tihiin horta haa dowlad waxay leedahay kow lama saddexay leedahay saan ka soo baxa nidaamka maaliyaddiina sameeya sharciyo ilaaliya nidaamka maaliyadda sameeya inaan la isboobi karin qofka kale inaanu dhici karin haddii maxaan ku rahdaa business iyo maxaan ku rahdaa ganacsi la galo inaan la isku khiyaamayn inaan la isku dhacayn lacag been abuura inaan la samaynaynin tuugada meesha ay lacagta ku dhaqdo oo ay ku faado lacag argagixisan laga keenay inta guri lagu gato beri la yidhaha gurigaana iska gurigaygaan gatay beri la yidhaha yaana dhicin warsaana yeelina waxaana lagu haysto oo ayadana maxaan ku rahdaa deyntana looga cafi waayo waa asbaabtaas waa soo bilownay hay-adiyan soo dhisna maanaan lahayn bangi dhexoo shaqaynaayo bangiyo shaqaynaayo maxaan ku idhahdaaye calaamooyinkii iyo wixii loo baahnaay iyo koodiskii caalamka oon kula macaamilayna lacagta marka la isku diraayo dhammaan inaan samayn waan samaynay hadda waxaa ka mid ah arrinta hadda aan ku dhaqaano oo ka mid tahay oo ah maxaan ku idhahdaaye musuq maasuqa war haddii lacagta dowladda la kala boobayo dadka soomaaliyeed lacagta laga soo qaaday maxaa mas-uuliyad daraa meeshaa ku jirto irresponsibility responsible state institutions in noqotiin waa waxaana laga rabo waxaa oo nalagu haystay ka mid tahay waxaa laga mid ah xogay dowladdu haysaa daday aruuriso hebelaa la yidhaha id numberkaanu leeyahay gurigaanu leeyahay baabuurkaanu leeyahay ama jiradaanu qabo xogtii qofka ayaa dowladdu aruurinay waa wadnaa waa socotaa haye see dowladda maxaa qaanuun maxaa ka yaalla oo qofkan xogtiisa ilaalinayso data protection waa qaanuun ilaad waa ansixinay baarlamaankaan marsiinay waa sameynay hadhan waxaana loo sameeyey calaamooyin la yiri intaas haddii ladinka helo cunaqabateyntaa ladinka qaadaa intaan haddii ladinka helo deynka waa ladinka cafina yacni wax dhammaan annaga nagu xiran waay adduunyada waxay ugu xiran tahay markay naga weydo inay markaa ficil wixii lagu heshiyo adduunka ku heshiy tallaabada inay qaata xataa maaha wax soomaaliya u gaara adduunka dhan baa ku heshiy cunaqabateynta dhaqaalaha dalal badan ay saaran tahay oo dhaqaalahooda si habsami u maamula war soomaaliyey meel kastoo aan joogno dowladnimo wuxuu maxay ahayd maamaade waayeel waayo waa annagoo aanan isyeelyeelin soo mahayn dowladnimo annagaa iskale waa annagoo aanan isyeelyeelin inaan institutionska dowladnimada la qofeeyo catoosha madax ka ay haddaan haddii la hadda waan la yaqaan catoosh hay-addii reer hebel askari sarkaal hebelaa soo qabtay nin tuuga waa la yaqaanaa
sarkaalku reer hebel weligoodba annagay noo dan lahaayeen instituushinada dowladda in la reer hebeleeyo oo la qabiileeyo war qabiilku maba diidaninbo laakiin meesha uu leeyahay geey qabiilku dowladdu waa wax dadka dhan ka dhexeeyo qabiilku dadka kama dhexeeyo kala qabiilaan nahay sii kale jufaan nahay qabiilka iyo jufada dagaalkeeda ha ka taliso dowladnimada soomaaliya ha ka leexato nin ra'yi waaye siyaasiyiinteenna nin ra'yi waaye oo dhihi waayey dadka soomaaliyeed aniga waxaanan u qabana hadduu siyaasi oo heer qarana hadduu yahay soomaaliya a b c d aan u samayna dhibkaanaan ka dulqaada horumarkaanaan gaarsiina nidaamkaanaan u samayna nin dhihi waayey oo maankiisu gaari waayaa ku rafta reer haddaana annaga xukunka horta maxaan ku haysanaa annagu reer hebelgeerooday duurkaas ku ilaashadaan waxna ma xukumaan adaa xukunka u socotide waxaad nagu xukumaysid noo sheeg billah caleyk reer hebeloo 1 kilomitr meel u jirta geera ku ilaashada reer hebel haddaan nahay dowladda kuma jirno waa ka maqannahay xaana laga yiri xaana laga waxeey hadday tahay dowlad goboleedka siyaasigeeda waxaa laga rabaa dowlad goboleedkan inuu ka hadlo waxeeda isaga xataa hal heeroo hoos usoo degay oo tii qaranka waa kasoo degay tanuu jooga laakiin dowlad goboleedka galmudug waan naqaanaa dhismaheediiaan soo joognay 11 qabiiloo soomaaliya isku timidaa ku heshiisay inay dowlad goboleedkan samaystaan way samaysteen ninka dowladda galmudug joogaa wuxuu dhammaan mas-uul ka yahay 11 qabiiloo mas-uul ka yahay qabiil gaara oo 11 ka mid ah markuu sheeganayo waa kaas kaloo aan sheegayo kale ra'yiguu la-yahay oo galmudug masaalixdeeda uga hadlo war mas-uul haddaad tahay baarlamaan galmudug haddaad tahay oo madaxweyne iyo wasiir iyo waxa heer galmudug haddaad tahay galmudug ka hadal horumarka galmudug iyo waxa dadka galmudug isku keenayo oo isku haynaya ka hadal waxa dadka galmudug kala qaybinaya yaa tole hey dadkay kala qaybisaa dad isuma keento tol dowladda keligiis horaa loo soo waayey yaa tole hey meel dhig waa qodob markaad galmudug ka tagto ee aad degmada cabuudwaaq iyo degmada maxaan ku idhaha dhuusamareeb iyo degmada ceelbuur iyo degmada gaalkacyo iyo degmada aad tagtana dadka deegaankaas degan counsilkeedaad ka mid tahay deegaankaas horumarkiisa ka shaqee deegaanku hal degaan oo 11 qabiil joogtahay waa yaryahay ma badna hadduu jiro ama ma jiro deegaanada qabiila jooga 2 joog 3 joog war intaas dantooda ka shaqeey oo masaalixdooda aqoonsiyo qabiilka soo harmaano war reer hebelow tuulada qurac dheer la yidhaha degan tahay tuulada qurac dheer la yidhaha siday dowladnimo uga jiri lahayd ka shaqeey reer hebel haddaatihiin reer hebelka kaloo xagga taago kula tartan meeqa ardaya iskuulaadkiina dhigata meeqaa keena dhigato kula tartan meeqa bar caafimaada degmadiina iyo tuulooyinkooda ku taalo kula tartan meeqa ceel biyaa geelinu ka cabaa kula tartan meeqa xarumood oo veterinary oo geela lagu daaweeyaa idin meeshaasuu jiraaye geela inaan kala dhacno soo xeraysano oo 2 wiil 10 wiil nooga dhimato oo maalinta dambe kuwo kale inta dhacaan haddana sii xeraystaan oo 10 kale ku dhimato tartanka meeshaas nagama jiro soomaaliyeed waxaan kusoo gunaanada hadalkeyga waa hurdnaayo hurdada aan ka kacno haddaan taaganahay waa taaganahay aan soconno haddaan soconno waa gaabinaayo aan orodno intaan u ordayna u soconnaa dowladnimo midnimo walaalnimo horumar yaan u soconnaa xageen ka cararaynaa oon ka nimiday qabiil isqaybqaybin isdil dowladnimada qabiil lagu raadiyo dhibaato dal barwaaqa ah ilaahayna dejiyey ummad hal midaho ilaahay naga dhigay diin hal midow ilaahayna siiyey ilaahay wuxuuna sii lahay ummad ugu gargaari lahay waa noogu gargaaray laakiin waa isgaburaynaa isgabidda aan ka baxno yaynaan isgabin laa yugayiru llaahu maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim ilaahay soomaaliduna xigmadeedii maxay ku tiri laba ilaahay waa awoodaa mase yeelo ilaahayow cibaadaysan maayahay cadaabi ilaahay inuu jannada ku geeyo waa awoodaa laakiin wuxuu kuu sheegay jidkaana jannadou tagaa jidkaana naartou tagaa kii naarta tegay haddaad qaata xaggeed janno ku arkay laakiin haddana saas adoo ilaahay inta kusoo qaada jannada inuu ku geeyo waa awoodaa laakiin ma yeelayo laana wuxuu ku tilmaamay tutil ku tagay ilaahayow cibaadaysan maayahay cadaabi midda labaad waxay tahay ilaahu guursan maayahay gablamin
inaad tarantaan maaragtaan haa saanaad ku tarmaysaan saan yeela waddadan mara guur xalaal isguursada ilmihiina dhaqaashada saanaad ku tarmaysaan laakiin anigu waa iska joogaa guursan maayo laakiin waxaan rabaa owlaad qurqurxan oo yaryaroo cayaarayso oon ku farxo magaan arkaan rabaa ilaahay waa awoodaa oo waana soo sudma ilaahay aadan u abuuro hooyo aabba aan lahayn xaawa u abuuro aan hooyo yacni ilaahay waa awoodaa nabi ciise alayh salatu wasalaam aabbalaan ilaahay waa awoodaa waana soo tusay inuu awoodo laakiin wuxuu ku sheegay haye adiga ma marta haa waddadaas waa mar war soomaaliyey waddada dowladnimadana waana loo sheegay waana naqaanaaye aan marro haddaanan marin dowlaan jecelahay qaranka maxaan ku dhaha hebelowga maxaan ku dhaha kaas weligii dowlad ku imaamayso ficilo aan ku darno isdhegaysi isu dulqaadasho is-aaminid war ninka siyaasiga ah siyaasiga war ninka siyaasiga ah la doon aamin hadduu ammaanadii ku dheelo waktigaad haysataa iska bax soomaaliya qof yimaado anaa maahan anaa ka taliyo joogaayo ebidkay maayaa ma dhacayso maba dhacaysa waad aragteen teeramyada laysku qabtaahay marka ay gabagaba gaaraan markay dhammaadaan xataa maaha marka la arko waddadaad ku socotid waddo oo waktiga markuu dhammaado aad ku tegaysid ama aad doorasho inayna ahayn waa lagugu kacaa suurtagal maaha dalkan marka dictator uu ka yimaado meel walbo maanta colaad iyo cilada ay ka taagan yihiin soomaaliya fiiri dhammaan xilli mas-uul la doortay oo xilligiisii dhammaaday ama uu dhammaanayo ee loo aqoonsaday in aanu sida ku tegi lahayn waa laga heshiiyey 4 sanaad joogtaa xasan sheekhaa lagu yiraa 4 sano maantay dhammaato 15 meeyaa lagu doortay 15 meeyda ugu dambaysa 4 sano waa in la doortaa madaxweynuhu ku bedeli lahay ama adiga dib lagu doortaa saa doontiyeen laakiin haddaan doorashadii sigsaan oo inta ka baxo oo hadhowna ilaa walaa doorasho lama qaban karee sanadaan u baahana 2 sano u baahana doorasho lama qaban karee aan inta lasoo istaago hal is dilo waay soomaali waa diiday ninkii ku dayayahan waa doqol yaa lagu dayinaan lehna dadka waxaa waa sababtaan u bilowna sanadkii koobaad ee talada joogno inaan ka hadalno doorashada iyo isbedelka iyo waxa dhacaya inaan hadda ka hadalno oo aanan sanadka u dambeeya iyo 6 bilood ugu dambeysa aanan laga hadlin tiyo aan hadda bilownaya ragga qaarkiis waxay ka shaqaynayaan ficilo ah inay dheeraato jiitanto hadda waxba la qaban waayo laakiin laga yeeli maayo go-aan haddaan gaaraynaa annagoo og waxaan beri noqonayna waxa badama noqona haddaa go-aanka la gaara annaga afkaarankeenna afkaarteena ayado qur-aan maaha wax waa laga bedeli karaa laakiin soomaali waa inay go-aan gaartaa 2023 intaanay dhammaanin sida beri la isku dooranayo dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariyaa madaxweyne ka ah sida doorashadiisa u dhacaysa waa in go-aan laga gaaraa hadda degmadan muxuu ahaaye maayar ay leedahay sida maayarkaasi loo soo dooranayo dadka soomaaliyeed aniga taladeeda waxay tahay oday uga oon ka shaqaynaya qof aanay dooranin oo mas-uuliyadda u dhiibanin inaanu xukumin qof lasoo magacaabay oo heblow dikareeto lagu soo sameeyey magacaabistaana dadku jecel yihiin magacaabista ninka jecel waa nin kalsoonida dadka inuu helaya aanan aaminsanayn waayo ninka in la magacaabo jecel ninka dadka kalsoonidiisa inuu soo helaya aaminsan inuu tago oo diyaar u yahay isbandhiga oo halay doortayda mar kale aad iyo aada u mahadsantihiin reer galmudug waa idiin mahad celinayaa soo dhaweyntiina quruxda badneed iyo martigelintiina waa ku mahadsantihiin laakiin muraadkii aan u imiday meeshaasuu jiraaye halaysla aado wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu madaxweyne xasan sheekh maxamuud aad iyo aadaad u mahadsan tahay halkaasay xafladda noogu eg tahay waxaan mar kale u celinayaa mahad galmudug research dialogue xarunta cilmi baarista iyo wadahadallada oo hawshan aabbe iyo hooyaba u ahayd waxaa kaloo u mahad celinayaa howlwadeennada iyo telefishinada naga ogolaaday inay baahintaas ka qayb qaataan madaxweyne maadaama reer dhusamareeb la wada gaari waayey oon su-aalaha gaarsiin waayey gacantaada yara gaarsiin عطش أصلا من السلام عليكم.
bagay gobanimo u muujeen galabta bagay bahoobeen inay wadagalan dagaal inay wadagalan dagaal baguu shacabkii galmudug ciidanka gacanay ku siiyeen bagay gobanimo u muujeen galabta bagay bahoobeen inay wadagalan dagaal inay wadagalan dagaal hambalya gaaraan sidaaye bilada oo iga guddooma hambalya gaaraan sidaaye bilada oo iga guddooma gubaabiyo waa halhayse gumaado nacabka gooya gumaado nacabka gooya hambalya gaaraan sidaaye bilada oo iga guddooma hambalya gaaraan sidaaye bilada oo iga guddooma gubaabiyo waa